intaana muuqaalka bilaabay waxaan ka codsanayaa in YouTube-ka subscribe dhaadaan muuqaalkan aad like saarta haweeneydan waxaa afduubta burcad kadibna ayada iyo ninkeeda way dileen waxa ayna ku rideen god weyn laakiin ma ogeyn in ay weli nooshahay waxaan bilowga muuqaalka ku ogaanaynaa in haweeneydan lagu magacaabo Brenner ay tahay askari ninkeeda Dillon waa sargaal boolis ah labadoodu waxay soo qaateen fasax ayagoo wada maraya oo u socdo dalxiis nin gaari wato ayaa wuxuu hadallo xun ku dhahayaa Brenner waxa ayna istaagayaan maqaayad si ay isugu diyaariyaan safarkooda Dillon waxa uu aadayaa musqusha Brennerna waxay fadhiisanaysaa miiska banaanka isla ninkii gaariga wata ayaa soo laabtay asigoo raba inuu Brenner dhibo Dillon ayaana ka soo baxaya musqusha waxa bilaabanaya muran ninka burcad ah waxa lagu magacaabaa Butch isagoo Dillon oo weydiinayo dhib ma jiro haweeneyda ah oo maqaayada joogta ayaa labadooda kala dhex gasha haweeneyda waxay sheegaysaa Dillon in dadka deegaanka inaysan arki karin lamaano wada socda iyadoo raali gelin ka bixisa hadallada Butch Dillon waa uu mahad celinayaa haweeneyda ayaana u sheegtay in ay ugu yeero mama maadaama dadka dhan ay ugu yeeraan markii ay maqaayadan imaadaan mama lamaanaha ayaa sii wata safarkooda ayagoo meel qurux badan ka dhigta goob ay degaan inta ay sanasan wali waxa uu imaatay haweeney boolis ah waxa ayna u sheegtay Brenner in dadka deegaanka aysan soo dhaweyn dadka aan deganayn goobtan ama deegaanka sida darteed ayna muujiyaan feejignaan dheeriya lamaanaha waxay uga mahad celinayaan digniinta ay siisay kadib waxay go'aansadeen in ay ku lugayaan kaymaha iyagoo wali dhex socda kaymaha Dillon waxa uu weydiinayaa Brenner dhanka ay u leexanayaan Brenner waxay dooratay dhanka bidix inay u leexdaan markii ay dhanka bidix u leexdaan roob ayaa bilaabanaya waxa ayna arkayaan qol ku dhex yaal kaymaha waxa ayna go'aansadeen in ay galaan gudaha aqalka lamaanu waxay ku dareemayaan nolol farxad leh Brenner waxay go'aansatay in ay baarto qolalka kale waxa ayna tagtay qol qarsoodi ah ay yaalaan rasaas iyo qoryo fara badan waxa ayna dareentay cabsi aad u weyn iyadoo u wacda Dillon asna cabsi ayaa qabatay waxa uuna go'aansadeen in ay ka baxaan qolka balse intaysan wali bixin Butch ayaa gadaal ka soo weeraray waxa uuna madaxa ugu dhuftay qoray kadib way suuxeen waxa ayna soo kaceen ayagoo qolka dhexdiisa ku xirxiran Butch waxa uu si xun u jirdilayaa Dillon asigoo ku qasbaya Brenner in ay daawato sababtoo ah wuxuu rabaa in ay dareento xanuun aad u daran mid ka mid ah ciidanka ayaa waxa uu yimaaday Butch asigoo u sheegay ninka uu jirdilayo in uu yahay sargaal boolis ah Butch waxa uu dareemayaa cabsi aad u weyn asigoo qolka gudaha u galaya waxa uuna Dillon u sheegayaa haddii uu ogaalaha inuu sargaal boolis uu yahay in uusan garaacin kadib waxa uu ku dhahayaa waxa aan rabaa inaan idin raali geliyo waxa uu nala soo baxayaa baskooladiisa isagoo labadooda toogtay waxa uuna ku amrayaa ciidankiisa in ay meydadkan qariyaan waxa ayna qodayaan god aad u weyn ayagoo ku tuuray meydadka kadib waxa soo muuqanaya xasuus hore oo muujinaysa tababarka ay Brenner u soo qaadatay in ay askari noqoto taas oo cadeynaysa in aysan ahayn haweeney jilicsan Brenner way soo toostay kadib markii ay baxeen burcadi waxa ay ogaatay in xabadu aysan dhaawac culus gaarsiin markay soo toostay isla markiiba waxay hubisaa ninkeeda markii ay ogaatay in uu dhintay waxay laamo yar dul saartay meydkiisa kadibna waxay u laabatay goobtii ay deganaayeen iyadoo murugo darteed aan isxakamay karin waxa ay nafteeda ku eedeysay dhimashada ninkeeda iyadoo xasuusanaysa in ay lahayd qofkii lahaa amarka in loo leexdo dhanka bidix waxa ay go'aansatay in ay aargudato waxa ayna isla markii qabsatay faas waxa ayna bilowday socodkeedii aargudashada dhanka kale Butch waxa uu ku laabanayaa guriga mama waxa uuna dulminayaa haweeney kale Butch waxa uu si xoog ah u qabsanayaa dhabarka gabarta isagoo u hanjaba dadka deegaanku waa ka baqayaan Butch iyo saaxiibadiisa maadaama ay dad badan hore u afduubteen maamada ayaa u timid Butch waxa ayna si degdeg ah ku amraysaa inuu cunto u cuno waxayna u sheegaysaa inay shaqo u hayso dhanka kale Brenner waxay geedaha ka samaysatay waran waxay isla markii dilaysaa mid ka mid ah ragga Butch waxa ayna dareemaysaa in aysan ku faraxsanayn waxa ay samaysay waxa ayna ku dhuumataa kaynta waqti kadib waxay awood u yeelatay inay disho mid kalena ay lugta ka jarto ma dilayso balse waxay rabtaa inuu xanuunka dareemo Brenner waxa ay dab qabasiinaysaa guriga Butch taasoo keenaysa qarax aad u weyn markaas waxa la soo bandhigayaa qof ka cusub dhacdadan waxa lagu magacaabaa Shariif waxa uu wataa qoray u maqlayaa qaraxa waxa uu isku dayayaa in uu ogaado waxa ka dhacay halkaas dhanka kale mama iyo Butch waxa ay maqlayaan qaraxa Butch waxa uu arkayaa qiiqa ka soo baxaya dhanka gurigiisa waxa uu dareemayaa cabsi mama isla markiiba waxa ay Butch ku amraysaa in uu aado gurigiisa si uu u soo hubsado waxa dhacay Butch marka uu gudaha u galay kaynta waxa uu arkayaa mid ka mid ah saaxiibadiisa oo dhaawaca waxa uu si degdeg ah u soo saarayaa gaarigiisa markii uu soo laabto mama waxa uu u sheegayaa in kooxdoodii la laayay mama aad ayay uga carootay hadalka Butch way dharbaaxaysaa iyadoo ku eedeynaysa wixii dhacay kadib waxa ay ku amraysaa inuu dib u raadiyo dadka weerarka geystay waxa aan ogaanaynaa in maamadu ay leedahay shabakad aad u weyn waxa ayna aadaysaa mid ka mid ah raggeeda ka shaqeeya qaybta xogaha waxa ayna ku amraysaa in uu baaro macluumaadka haweeneydan
markii la baaro macluumaadka Brenner waxaa la ogaanayaa haweeneydan in aysan ahayn qof sahlan ay tahay sargaal militariga. dhanka kale Shariif waxa uu arkayaa mid kamid ah meydadka isla markiiba waxa uu la xiriirayaa qaybta taliska isagoo uga warbixinaya meydadka halkaas yaal. dhanka kale Brenner waxa ay sii wadaysaa diyaar garowgeeda dagaalka iyadoo dabina ay u dhigayso dadka ku raad joogo. ciidanka Shariif waxa ay soo gaarayaan halkii uu meydku yaalay. mid kamid ah askarta Shariif ayaa waxa uu sheegayaa in ninka dhintay oo kamid ahaa kooxda Maama. wuxuu sidoo kale shaaciyay in dhamaanta kayntan ay hoos timaado xukunka Maama. wax kasta oo ka dhaca kayntan ay ku dhacaan amarkeeda. Shariif waxa uu go'aansanayaa in uu la kulmo Maama sida ugu dhaqsiyaha badan. haweeney ka shaqeysa xarunta Maama ayaa waxay u sheegaysaa in uu Shariif u soo socdo Maama. Shariif iyo ciidankiisu waxa ay u tagayaan iyagoo la wadaagaya xogta meydka yaalkaynta. Maama ma muujinayso wax walaac ah oo la xiriira in raggeedii la laayay. waxa ayna Shariif u sheegaysaa in ninka dhintay uu asagu isdilay. Shariif waa dareemayaa in ay been u sheegayso balse wax kuma darsan wuuna ka dhaqaaqay isaga iyo ciidankiisa. habeenkii duqda iyo ciidanku waxa ay u baroonayaan saaxiibkoodii dhintay waxa ay nacabayaan qamri ilaa ay mir beeleen. Buuj waa soo toosaya waxa uu galayaa qolka jiifka balse halkaas waxa ku sugaya Brenner waxa ayna isla markii qoorta ka jartay Buuj iyadoo sidaas uga arguday ninkeeda. waxa ayna daawanaysaa isagoo si tartiib u dhimanayo. subaxii xigay Brenner waxay wali ku dhuumanaysaa guriga. mid kamid ah ragga burcadka waxa uu jiidayaa gabar isagoo gelinaya qol. Brenner waxa ay dareemaysaa in haweeneydaas ay kaligeed ahayn haween kale oo badan in halkan lagu hayo. waxa ayna go'aansataa in ay badbaadiso gabadhaas. waxay si dhuumaaleyshiya u gashay qolkii iyadoo soo bixisay laba gabdhood. labada gabdhood aad ayay u baqayaan. mid kamid ah ayaana qaylisay taasoo keentay in mid kamid ah burcadii uu soo kaco. ninkii waxa uu bilaabay in uu xabada ku rido waxa ayna ku dhacday mid kamid ah labada gabdhood iyadoo isla goobtii ay ku dhimatay. laakiin Brenner waxa ay ku guuleysatay in ay disho ninka. waxa ayna aadayaan kaynta iyada iyo gabar lagu magacaabay Imi. dhanka kale Maama waxa ay maqlaysaa in Buuj la dilay gabarna la watay. markii ay maqasho geerida wiilkeeda Maama way xanaaqaysaa. waxa ay ciidamadeeda u sheegay in ay doonayso in haweeneydan nolol lagu keeno. waxa ayna amartay dhammaan ciidamada iyo eeyaha in ay ka howlgalaan kaynta si ay u soo ogaadaan halka ay joogto Brenner. mid kamid ah ciidanka ayaa waxa uu ogaaday halka ay ku dhuumanayso Brenner balse waxa uu ku dhacay daminkii ay dhigtay. mid kale ayaa isku dayay in uu cararo laakiin isla markii waxa toogata Brenner. habeenkii Brenner iyo Imi waxa ay fadhiisteen kaynta iyagoo sheekaysanayo. Imi waxa ay u sheegaysaa Brenner in ay leedahay uur balse ay aad uga baqayso in ay dhimato maadaama ay raadinayaan ciidanka Maamo. Brenner ayaa waxa ay u sheegaysaa in ay badbaadi doonto nolosheeda ayna isdajiso. dhanka kale ninkii gaarka u ahaa Maama asiga iyo eeyihiisa waxa ay u dhaqaaqayaan kaynta iyagoo baadi goobaya Brenner iyo Imi. subaxii xigtay waxa ay qabteen Imi laakiin waxa ay ka soo gaaraya Brenner waxa ay toogatay ninkii. isla markiiba goobta waxa soo gaaraya Shariif. mid kamid ah ciidankii Maama waxa uu lugta ka tooganayaa Shariif laakiin Brenner ayaa aragtay isla markiiba waxay si degdeg ah u toogatay ninkii. kadib Brenner iyo Imi waxa ay caawinayaan Shariif si uu u gaaro goob ammaan ah. Brenner waxa ay u sheegaysaa Shariif in ay u baahan yihiin in ay cadawgooda mashquuliyaan haddii kale waxa ay sii wadi doonaan raadintooda taasoo xaaladda sii adkay karta. kadib waxa ay go'aansadeen in ay ka baxaan halka ay ku dhuumanayeen. Brenner iyo Imi waxa ay ku socdeen kaynta ilaa ay la kulmeen haweeneydii booliska ahayd oo hore uga digtay iyada iyo ninkeeda in ay ka fogaadaan aaggan. waxa ay ka dalbeen caawinaad haweeneyda booliska ah iyadoo u sheegtay in ay gaariga soo koraan. Imi si degdeg ah ayay ku kortay halka Brenner ayaduna ay raacday iyagoo aad u daalan waxa ay raaceen gaariga isla markiina waa hurdeen. markay soo toosaan waxa ay ogaadeen in Maama iyo ciidankeed ay ku hareeraysan yihiin. waxa ayna ogaadeen in haweeneyda booliska ay ka mid tahay shabakadan. kadib waxa ay bilaabeen in ay jirdilaan. Imi waxa ay ugu dambeyn u sheegtay Maama inay uur u leedahay Buuj. markay maqasho hadalkan Maama waxay si degdeg ah u amartay ciidankeeda in ay geeyaan qol kale. Brennerna waxa lagu xiray qol loogu talagalay jirdilka laakiin Imi oo keentay cunto waxa ay dishay ninkii waardiyaha ka ahaa Brenner iyadoo si dhaqsi leh uga furta xarigii ku xirnaa Brenner. Brenner waxa ay gashay qolkii ay ku jireen ciidamada ayadoo halkaas dagaal ka bilowday waxa ayna ku guuleysatay inay mid u disho. dhanka kale Maama waxay midi qoorta ka saartay Imi iyadoo u hanjabaysa in ay beray doonto haddii kale Brenner hubka inay dhulka dhigto. mid kamid ah ciidanka Maama waxa uu weerar gadaal uga soo qaaday Brenner taasoo fursad u siisay Maama in ay barayso Imi iyadoo isla markiiba goobta isaga baxsatay. Brenner waxa ay si degdeg ah u toogatay ninkii iyadoo u soo dhawaatay Imi laakiin waa geeriyootay. 3 bilood kadib Maama waxay fadhidaa beer iyadoo aad u faraxsan laakiin waxa ay helaysaa fariin u soo dhacday moobilkeeda. inta ay akhrinayso fariinta waxa madaxa loogu dhuftay xabad waxaana la arki karaa Brenner oo ku dhex dhuumata kaynta oo halkaas ka toogatay. kadib markay u arguday ninkeeda
Britney si tartiib ah ayay uga dhaqaaqday goobta. Filimku halkaas ayuu ku dhamaanayaa, waana ku mahadsantiin daawashadiin. filimkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay nin lagu magacaabo Faran waxa uu la kulmayaa dhibaatooyin badan noloshiisa, gaar ahaan maadaama uu kamid ahaa askartii dagaalkii Vietnam. Maalin maalmaha kamid ah isagoo baska saaran waxa uu arkayaa laba wiil oo rabshado ka dhex wada baska, taasuna waxay maskaxdiisa dib ugu celinaysaa carruurnimadiisii markii uu la noolaa waalidiintiisa oo ku jira nolol qurux badan iyo baashaal. Intii uu dhalinyarada ahaa waxa uu jeclaa gabar, waxa ayna ku ballameen inay isguursadaan markii uu ka soo laabto dagaalka, laakiin arrintu way isbedeshay. Faran waxa uu dagaalka ku maqnaa muddo 10 sano ah. Markii uu dib ugu soo laabtay gurigiisa waxa uu ogaaday gabadhii uu jeclaa inay nin kale guursatay, 2 carruurna ay leedahay. taasi aad bay u dhaawacday qalbigiisa. Faran waxa uu go'aansaday inuu booliska ku biiro, isagoo filayay khibradiisa militarinimo inay ka caawin doonto. Waa laga diiday, taasoo niyad weyn ku noqotay. Waxa uu waayay shaqo. ugu dambeyntii waxa uu bilaabay inuu iibiyo rootiga, taas ayuu noloshiisa ku maareey jiray. laakiin nasiib darro waxaa timaaday shirkad cusub oo u samaysay rootiga si casri ah, iyadaana macaamiishii kala wareegtay. markaas ayuu noqday hoy la'aan, waxaana soo wajahday xaalad adag. aan dib ugu laabanay xilliga uu baska saarnaa. laba wiil oo rabshado ka wado gudaha baska, waxayna isku dayayaan inay dhibaateeyaan nin duq ah. Faran ayaa arrinta soo farageliyay, waxa uuna badbaadiyay ninkii duq ahaa isagoo labadii wiil garaacay. dadkii baska saarnaa ayaa duubay dhacdadaas, waxa ayna ku faafiyeen baraha bulshada. lama filaana Faran ayaa caan noqday sababta geesinimadiisa darteed. dadka waxay bilaabeen inay ugu yeeraan geesigii. sidoo kale waxa ay ku sawirayeen darbiyada. boolisku waxa ay u diyaariyeen Faran gaari oo magaalada ku wato, laakiin arrintu sidaa kuma ekaan. Faran iyo hooyadii ayaa lagu casuumay barnaamij telefishin ah, markaas ayuuna si buuxda u caanbaxay. nasiib darro hooyadii waxa ay geeriyootay 3 bilood kadib, markaas ayaana xaaladii ku soo xumaatay. waxa uuna dareemayaa murugo. saaxiibkiisii hore ee dagaalkii Vietnam, Columbia Washington, ayaa u soo guuray Faran si uu ula noolaado. waxa uuna siiyay canjalad ay ku jiraan waxyaabo muhiim ah. Faran wax fikrada kama haysto canjalada waxa ku jira, waxa uuna iska dhigay goob ammaan ah. habeenkii dambe Columbia wuu baxay si uu u soo gato sigaar, laakiin waxa uu la kulmay labadii wiil. waxa ay raadinayaan canjaladii uu siiyay Columbia Faran, laakiin Columbia waxa uu sheegay been, isagoo ku yiri waa dhuntay. arrintaas waxa ay ka careysiisay labadii wiil, iyadoo dhalisay muran aad u badan. waxa ayna sababtay inay dilaan Columbia, wayna baxsadeen. markii uu Faran u maqlay geerida saaxiibkii, waxa uu si degdeg ah u tagayaa baqaarka meydka si uu u arko saaxiibkii. aad ayuuna u murugooday. wuxuu ka codsaday booliska inay si dhab ah u baaraan dilka Columbia oo ay soo qabtaan kuwii ka dambeeyay dilkiisa, laakiin arrintu way sii adkaanaysaa. habeenkii xigay saaxiibkii oo sargaal ayaa u yimaaday Faran si uu u dejiyo, isagoo u sheegay in boolisku si dhab ah u baari doonaan kiiskan. laakiin goor dambe Faran waxa uu fiirinayaa telefishinka, waxa uu arkayaa in booliska ay xaliyeen kiisaskii ka dambeeyay dilka saaxiibkii. arrintaasna waa uu ka xanaaqay, gaar ahaan markii uu arkay booliskii loogu talagalay in ay baaraan kiiska inay xafiiska isaga ciyaarayaan halkii ay ka baari lahaayeen dilka saaxiibkii. markaas ayuu Faran go'aansaday inuu si shakhsi ah u baaro asigoo uuna booliska sugin. waxa uuna bilaabay inuu tago meesha lagu toogtay Columbia. halkaas ayuuna ka helay silsilad ay ku sawiran tahay sawir haween iyo qolofta xabadda. waxa uu rabaa inuu silsiladan raadraac ka dhigto. waxa uuna tagaa dukaan lagu iibiyay qalabka qadiimiga ah. ninkii dukaanka jooga waxa uu u sheegayaa in ay silsiladan uu leeyahay nin la yiraahdo Taransa, sawirkana uu yahay xaaskiisa. Faran waxa uu helayaa ciwaanka Taransa, waxa uuna si dhaqsi ah u tagayaa gurigiisa, laakiin Taransa ma joogin. xaaskiisuna waxa ay sheegtay inuu muddo isbuuca uusan iman guriga. Faran waxa uu silsiladii dib u celinayaa xaaska Taransa, waxa uuna weydiinayaa halka laga heli karo ninkeeda. xaaskii waxa ay u sheegtay in Taransa uu ciyaari jiray kubadda kolayga. markaas ayuu Faran si degdeg ah uga baxayaa beerta lagu ciyaaro kubadda kolayga. markuu tago waxa uu arkayaa dhalinyaro ku ciyaaraysa kubad, waxa uuna weydiinayaa Taransa halkii ay ka caawin lahaayeen. waxa ay bilaabeen inay ku maadsadaan, taasuna waxa ay ka xanaajisay Faran. waxa uuna bilaabay inuu garaaco 2 ka mid ah. markii dambe dhalinyaradii waxa ay u sheegeen Taransa inuu saaxiib leeyahay nin la yiraahdo Ronaldo, kaasoo laga yaabo inuu og yahay meesha uu jiro. markii Faran uu tago guriga Ronaldo, waxa uu la kulmayaa saaxiibkii la deganaa qolka. waxa uuna u sheegayaa Faran in saaxiibkii uu jiro baar ku yaala magaalada. Faran halkaas ayuu aaday, waxa uuna la kulmayaa dad aan u ogolayn inuu gudaha u galo baarka, wuuna la dagaalamayaa qaar ka mid ah. ugu dambeyntii waxa uu la kulmay Ronaldo, wuxuu hanjabayaa si uu xog uga helo. ugu dambeyn Ronaldo waxa uu u sheegayaa Taransa inuu xiriir la leeyahay gabar la yiraahdo Taina. hadda waxaan arkaynaa nin burcada oo la yiraahdo Bender waa ninkii madaxda u ahaa Taransa iyo saaxiibkii. waxa uuna la shirayaa Mayor William oo ah duqa magaalada, balse ah laaluush qaate. duqa waxa uu cadaadis saarayaa Bender si uu u helo canjaladii uu la baxsaday Columbia, waxaana soo baxday inay canjalada ku jiraan musuqmaasuq uu ka sameeyay duqa magaalada iyo cadeymo muujinaya inuu la shaqeeyo burcadda. xilligii uu duqa magaalada ka ahaa waxa soo baxday in cadeymo Columbia inuu la shaqeyn jiray Mayor William, balse uu shaqada ka tagay isagoo qorshe kale leh. wuxuu qaatay cadeyntii aad muhiimka u ahayd ee Mayor William, wuuna la baxsaday isagoo qiyaamay Bender. Faran waxa uu bilaabayaa howlgallo, waxa uuna caawimaad ka helayaa dariskiisa si lagu magacaabo Martin iyo Faran waxa ay rabaan inay ogaadaan waxa ku jira canjalada.
habeenkii dambe Faran waxa uu booqdaa Tayna oo ka shaqeysa goob masaaja wuxuuna weydiinayaa wax ku saabsan taransa balse ma aysan siin wax war ah waxa uuna bilaabay inuu si tartiib ah u dabagalo markii ay shaqada ka baxdo waxa uu si qarsoodi ah u gala gurigeeda waxa uu ugu dambeyntii helayaa taransa wuxuuna bilaabayaa inuu garaaco si uu u helo xog ku saabsan cidda amartay in la dilo Kolondi taransa si fudud wax ku sheegi maayo waan iska aamusan yahay sidaa darteed Faran waxa uu go'aansaday inuu cadaadis xoog la saaro si uu u dareemo xanuun waxa uuna ugu dambeyntii sheegayaa xogta waxa soo baxaysa in Kolondi uu galay dhibaato weyn waxa uuna ka soo horjeesta Bender oo ah daroogisto Kolondi waxa uu xaday canjalad ay ku jirto sir weyn oo ku saabsan ceel shidaal oo Mayor William doonaya in laga qodo xaafadiisa taransa waxa uu sidoo kale u sheegayaa Faran halka uu ka heli karo Bender laakiin ka hor inta uusan Faran u dhaqaaqin waxa uu ku laabtay gurigiisa si uu isugu diyaariyo markaas ayuu maqlayaa qaylo ka soo yeeraysa guriga Martin Amber hooyada Martin waxa ay la dhibaatoonaysaa ninkeeda oo xun Faran wuxuu soo faragelinayaa wuxuuna badbaadinayaa Amber maadaama uu yahay nin xoog leh Amber waxay casuutay Faran si uu u cunteeyo Faran fursadan uu ka faa'iideysanayaa waxa uu xirtay dhar qurxoon waxa uu sameysay casuumaad qado waxa imaanaya wiilkeeda yar ee Martin Faran waxa uu sheegayaa Amber iyo Martin inay gurigiisa imaadaan inta uu ka sameeyay albaabka maalintii u dambeysay Faran waxa uu canjalada siinayaa askari kadib wuxuu raadiyay Bender waxa uu maqlay in Faran soo socdo wuxuu amray kooxdiisa inay weeraraan haddii uusan keenin canjalada muhiimka sidaa darteed Faran waxa uu galay xaalad adag kooxda Bender way qabteen wayna garaaceen ilaa uu miir beelay waxay bilaabeen inay jir dilaan si uu u sheego canjalada halka uu ku qariyay waxayna ku xireen qalab koronto si cadaadis u dareemo Faran waa nin madax adag Benderna wuu niyajaba markii uu Faran waxba uusan sheegin markaas ayuu bilaabay inuu fiiriyo jeebkiisa waxa uuna ogaado halka uu degan yahay Bender asagoo u maleynaya in canjalada ay jirto guriga wuxuu amraa in la sii jir dilo Benderna waxa uu ordayaa guriga si uu u soo qaato canjalada laakiin Faran wuu ka baxsanayaa xariga waxa uuna la baxay taraq isagoo ku tuuray haama gaas ah taasoo keentay qarax aad weyn Bender wuu ordayaa laakiin Faran kama harayo waxa ayna kala raaceen gawaarida baska taasoo sababtay burbur badan oo gaadiidka ugu dambeyn labadoodii baabuur way burbureen Faran weli ma uusan harin wuxuuna sii erinayaa Bender waxa uu la kulmayaa labadii wiil oo baska dhibka ka sameynaya markii hore iyaguna waxay rabaan inay duubaan ayagoo garaacayo si ay caan u noqdaan balse mar kale ayuu garaacay Bender waxa uu gaaray guriga waxa uuna ugu tagay Amber waxa uuna u hanjabayaa waxa uuna u sheegayaa haddii aysan sheegin halka uu canjalada dhigay in uu garaaci doono laakiin mar kale Faran ayaa ka daba imaaday si uu u badbaadiyo Amber waxa ayna bilaabeen dagaalka waxa ay iskula soo baxeen banaanka guriga markii Bender uu damacay Faran inuu si xun u garaaco Amber ayaa ku booday dhabarkiisa iyadoo celisay taasna waxay siisay Faran fursad uu ku garaaco ugu dambeyntii Bender booliska ugu dambeyntii waxa ay qabteen Bender waxa kale oo ay xireen maayarkii magaalada sidaas ayaana lagu abaalmariyay Faran markaas wixii ka dambeeyay waxa uu ku noolaa nolol farxad leh waad ku mahadsantahay daawashada fadlan subscribe like share inta ana filim bilaabay waxaan xasuusinayaa in YouTube ka subscribe dhaadin muuqaalkan aad like share waa ku mahadsantahay daawashada wiil lagu magacaabo John ayaa subax hore hurdada ka soo kacay waxa uu helay waraaqad ay uga tageen qoyskiisa iyagoo ku sharaxaya inay si degdeg ah u baxeen balse waxa ay uga tageen lacag oo ku soo dukaamaysto haddii uu wax u baahdo John waxa uu bilaabay inuu ciyaar game isagoo la ciyaaraya saaxiibadiisa si online ah si uu u soo bandhigo baraha bulshada laakiin ciyaartii waxa hagad galiyay ciyaaryahan kale oo isagoo u sheegay inay daawadaan wararka TV-ga waxa yeelay wax weyn ayaa dhacay isla markiiba John waxa uu shitay TV-ga barnaamijyada caadiga ah waxa jiray digniino degdeg ah oo soo dhacayo taasoo lagu ogeysiinayo dadka in musiibo ay dhacday John waxa uu helay fariin degdeg ah oo ku soo dhacay mobilkiisa ka hor inta uusan daaqada fiirin waxa uu arkay wax cabsi leh zombie ayaa magaalada qabsaday waxa ayna laynayaan dadka oo ku kala farxanaya wadooyinka jidadka waxa ka taagan fowdo baabuurtuna way isku dhacayaan taasoo keentay qarax yar gabar ayaa hooyadeed ku qaylinaysa si ay u badbaadiso laakiin markii ay u timid waxay bilowday inay cunto John waxa uu maqlayaa dhawaaq ka yeeray qolka hortiisa markuu albaabka furo deriskiisa San ayaa albaabka xoog ku soo galay isagoo ka codsanaya inuu caawiyo sababtoo ah walaalkii ayaa qaniinay asigoo zombie ah John waxa uu isku dayayaa inuu iska saaro qolka laakiin San waa iska caabina asigoo u sheegay inuu caafimaad qabo ugu dambeyn John waxa uu ogolaaday inuu isticmaalo musqusha markaas John waxa uu TV-ga ka maqlayaa in dadka ay isku bedelayaan zombie sabab la xiriirta infection-ka oo xoolo u faafayo calaamadaha cudurkana waxa kamid ah dagaal badan iyo qaniinyo John waxa uu si degdeg ah u la boodayaa midi waxa uu ku taagayaa San marka uu ka soo baxo musqusha isagoo arkaya dhaawaca gacantiisa San waxa uu ku dhaaranayaa inuusan jiranayn laakiin isla markiiba indhihiisa casaan ayay noqdeen waxa uu si lama filaan ah u weeraray John waxa uu awooday inuu riixo oo albaabka dibadda uga saaro kadib dagaal yar John albaabka ayuu si adag u xiray waxa uu ku aadiyay albaabka talaagad waxa uu isku dayayaa inuu
la xiriiro qoyskiisa balse taleefanku u shaqayn maayo. Nasiib wanaag waxa uu helayaa fariin hooyadii uga timid taasoo leh in ay bad qabaan laakiin aysan guriga imaan karin. Waxayna u sheegayaan inuu ku jiro guriga oo uusan banaanka uga soo bixin. TV-ga waxaa laga sheegayaa in dadku ay haystaan cunto iyo biyo ku filan muddo 60 maalmood ah taasoo June uu ka qoomeynayo maadaama uusan ku soo adeegan lacagtii la siiyay. Wuxuu bilaabay inuu cuntadiisa kaydsado. Subaxii xigay professor ayaa sharaxaya in infekshin maskaxda qaybteeda bidix ku dhacay oo sababay zombiga. June weli wax wicitaana ma samayn karo laakiin waxa uu arkayaa baraha bulshada dad isweydiinaya eelkooda kuna qoraya ciwaankooda baraha bulshada ayagoo dhahaya nolol ayaan rabnaa ay gargaar u helaan. June waxa uu sawir iska qaadaa asigoo haysta boor oo ciwaankiisa ku qoran yahay. Waxa uuna baraha bulshada dhigay isagoo ku qoran yahay waa inaad noolaadaa. Wuxuu daawaday fiidiyoo nin saaran dhismo dheer isagoo isticmaalaya bir dheer si uu anteeno u helo. Fiidiyowgii wuu dhamaaday markii si lama filaan ah ninkii u dhacay. Warbixintii TV-ga ayaa sheegaysa in dadka zombiga isu bedelay ay dhowr daqiiqo ka hor qaylinayaan intaysan isbedelin. June waxa uu diray daroon si uu u eego qolalka kale ee dabaqa. Waxa uuna ogaaday in guryo badan ay zombiga buux dhaafiyeen. Si qalad ah waxa uu taleefankiisa ka wacay lambarka aabihi taasoo keentay in daroonta battery ka dhamaado. June waxa uu dib ugu laabtay ciyaartiisii online-ka laakiin internet-ku wuu go'ay. Habeenkii waxa ka kiciyay gambaleelka gawaarida. Markii uu fiiriyay daaqada waxa uu arkayaa askari tooganaya saaxiibadiis kuwaas oo zombi isu bedelay. Nasiib darro xabadii ayaa ka dhamaatay waxa uu isku dayay inuu xabad kale gashto laakiin zombiga ayaa ku dhagay. Iyagoona jiideen oo geeyeen waddo kale ay ku sugan yihiin zombiyaal kale. June waa qayliyay si uu uga celiyo zombiga laakiin way istaageen kadib wadana way ku laabteen. Ilaa filaana zombi weyn ayaa waxa uu bilaabay inuu June albaabka xoog ugu garaaco ilaa ugu dambeyntii uu riixay talaagadiina uu gudaha ugu soo galay. June waxa uu isku dayayaa inuu albaabka riixo laakiin uu awoodi waayay. Kadibna waxa uu ordayaa balakoonka kadibna wuu booday markii zombiga uu soo galay. Zombigu waxa uu ka dhacay balakoonka taasoo keentay in June uu si nabad ah uga soo dago balakoonka. Waxa uu arkayaa qolo kale oo zombi ah laakiin wuxuu aqoonsanayaa askarigii shalay ay ku dhagayeen oo asna zombi noqday. Kadibna wuu xiray albaabka wuuna murugoonayaa kadib markuu ogaaday in zombigu soo galay uu burburiyay inta badan cuntadiisii. June waxa uu duubayaa fiidiyoo oo uga argagaxsan yahay xaaladda uu ku sugan yahay. Maalintii toddobaad waxa uu bilaabay inuu cabo qamriga aabihii. Wuxuu daboolay daaqadaha asigoo isticmaalaya warqad midab leh si aysan zombigu uga soo arag. Wararka TV-ga waxa ay sharaxayaan in infekshanku kaliya faafayo markii dhiig la istaafsiyo. Sidaa darteed qofku wuu nabad qabaa haddii uu iska ilaaliyo qaniinyada iyo dhaawaca. Zombigu waxa ay helayaan awood sare. Qaar badan oo kamid ah waxa ay awoodaan inay qabtaan howlihii ay hore u qaban jireen sida furidda albaabada. June waxa uu arkayaa xayeysiis aad u qurux badan. Waxa uu cunayaa cuntadiisii ugu dambeysay balse waxa uu uga xumaanayaa marka uu arkay qoraal yar oo ku dhagan cuntada uu cunay taasoo sheegaysa inay tahay cuntadiisii ugu dambeysay. Waxa uu si xanaaq leh u tuurayaa dhalada biyaha kadibna waxa uu aaday tubada si uu uga soo buuxsado biyo laakiin waxa uu ogaanayaa in gurgadan ay biyaha dhan ka go'an yihiin. Waxa uuna ugu dambeyntii leefleefayaa waxa yar oo ku haray miiska. Maalintii 10aad June waxa uu duubay fiidiyoo isagoo muujinaya sida uu ugu daalay fariimaha TV-ga. Waxa uuna doonayaa in uu baxo balse zombiga weli way joogaan. Waxa uuna xasuustay abka degdega ah ee leh barnaamijyada raadiyaha iyo isticmaalka jaakada maqalka si ay u helaan anteeno laakiin nasiib xumo wax dhaga ah ma leh. Maalintii 15aad si uu niyadiisa u dajiyo waxa uu guriga ku dhex ciyaarayaa qoobka ciyaar. Xilligaas waxa uu maqlayaa sawaxan waxa uuna si lama filaan u arkayaa qoyskiisa oo soo laabtay. Farxadiisu waxa ay socotay kaliya ilbiriqsiyo ka hor inta uusan ogaan inuu riyoonayo. Wuu dhacay waxa uuna dareemayaa in rajadiisa aad u yaraatay ilaa uu si lama filaan u maqlay fariin cod ah. Waxa uu maqlayaa codka hooyadii oo dhahaya guriga joog balse qaylada zombiga ayuu la maqli weynayaa. June waxa uu bilaabayaa inuu anteeno u raadiyo taleefanka isagoo koraya balakoonka. Nasiib darro fariintan waxa ay dhamaatay markii zombiga uu soo weeraray dhismihii uu deganaa. June gabi ahaanba wuu niyadjabay waxa uuna bilaabayaa burburinta alaabta guriga taal balse weli kuma filna inuu xakameeyo xanaaqiisa. Waxa uuna u soo baxay banaanka ilaa uu mid kamid ah zombiga uu garaacay uu dilay. Waxa uuna fiirinayaa geeskiisa waxa uu arkayaa zombi laakiin waa saaxiibkiisa oo deriskiisa ahaa. June waxa uu isku dayayaa inuu iska celiyo zombiga laakiin qayladu waxa ay soo jiidatay kuwa kale. Wuu ordayaa isagoo aadaya weeshka laakiin zombi kale ayaa ka soo baxay. June oo argagaxsan ayaa isla markiiba cararayay wuxuuna awoodayaa inuu isku qariyo meel ka hor inta aysan arag zombi. Markii uu zombigu ka fogaado waxa uu bilaabayaa inuu ku laabto qolkiisa. June waxa uu arkayaa mid mar dhow zombi noqday laakiin waa indha la'aan. Waxa uu sugayaa inta uu ka dhaqaaqayo kadibna waxa uu cararayaa qolkiisa isla markii uu albaabka xiray zombigu waxa uu maqlayaa dhawaaqa waxa ayna isugu tageen banaanka. Maalintii 20aad June waxa uu cararayaa banaanka markii uu maqlo qaraxyo. Waxa uuna ogaanayaa in magaalada la duqeynayo isagoo u haysta inay tan tahay dhamaadkii noloshiisa. Waxa uuna duubayaa fiidiyoo oo ku dhahayo goodbye ka hor inta uusan fuulin kursi si uu isu dilo laakiin si lama filaan ah iftiin laysar ah ayaa qolkiisa gudaha u soo galay. Waxa uuna tilmaamayaa ereyga no. June waxa uu bilaabayaa inuu si degdeg ah isaga furo xariga kadibna waxa uu akhriyay jumlada oo tilmaamayo iftiinku oo ah ha noqon nacas. Markii uu fiiriyay banaanka waxa uu arkayaa gabar la yiraahdo Yubin oo daawanaysa iyadoo adeegsanaysa doob biraha iyagoo isticmaalaysa gacan haatin iyo qoraal. Waxa ay ku ballameen inay is arkaan 7
7 fiidnimo. Markii uu fiiriyo qolkeeda waxa uu ogaanayaa in ay haysato cunto iyo biyo, xitaa waxa ay samaysatay damin ayagu tala gashay Zumbiga. Subaxii xigtay June waxa uu hurday hurdo xad dhaaf ah waxa uuna ka kacay 11 subaxnimo. Yubin ayaa u naxday sidaa darteed waxa ay bilowday inay salaanto iyagoo adeegsanaya calaamado iyo qoraallo taleefanka. Waxa ayna isdhaafsadeen magacyadooda. Markaas Yubin waxa ay maqashay dhawaaq waxa ay u sheegtay June inay mar kale kulmi doonaan 7 fiidnimo. Sidaa darteed waxa ay bilowday inay fiiriso dhawaaqa iyadoo wadata faas. Waxa ayna la kulantay Zumbi galay daminkeeda kadibna way dishay. Habeenkaas waxa da'ay roob ayagoo labadooduba baaldiye dhigteen si ay biyo u galaan. Markii ay fiirisay dhismaha June waxay ogaatay in dabaqa 8aad oo faaruq yahay. Subaxii xigtay June waxa uu toosay waqti dambe laakiin waxa uu la taag darnaa gaajo. Yubin ayaa dareentay waxayna isku dayday inay xarig ku tuurto balakoonka iyadoo adeegsanaysa kubad, balse kubaddii waxa ay ku dhacday dhulka. June waxa uu diray daroon oo ku xiray xarig. Markii ay dhinacyada si fiican ugu xireen, Yubin waxa ay u dirtay cunto iyo qoraal ay ku leedahay cuntada si tartiib ah u cun. Markaas June waxa uu arkayaa kubaddii ay qabsadeen Zumbi. Zumbi ayaa jiidaya xarigga. Yubin miiska ayaa ku dhacay kadibna way suuxday. Zumbigu waxa uu bilaabayaa inuu xarigga fuulo. June waxa uu bilaabayaa inuu tuuro dhalooyin maran si uu u joojiyo Zumbiga, balse midna ma gaarin. Markaas ayuu daroontii u dirayaa Zumbiga si uu u mashquuliyo. Laakiin markii uu Zumbi kale bilaabay inuu soo garaaco albaabka, June wuu mashquulay. Daroontiina waxa qabtay Zumbi uuna burburiyay. Laakiin ka hor inta uusan kor u sii fuulin, Yubin ayaa soo toostay waxa ayna gacanta ka goysay Zumbigii dhulka ayuuna ku dhacay. June waxa uu waqti yar kadib ogaanayaa in raashinku gabaabsi uu ka yahay. Waxa kale oo xasuusanayaa in uusan la noolay qoyskiisa isaga oo lugaha iyo madaxa qarsanaya. Habeen barkii waxa uu ka baxayaa guriga. Waxa uu jidadka ku arkayaa meydad badan si ayar ah ayuuna u socdaa. Kadib waxa uu galayaa guriga San. Halkaas ayuu raashin, sameecad iyo qalabka maqalka uu ka soo qaatay iyo jaakada isgaarsiinta. Markii uu sariirta fiiriyo waxa uu arkayaa wax daboolan. Wuxuuna ka qaadayaa bustaha. Waxa ku daboolan meyd dumar ah. Waxa isla markiiba soo weerarayo walaalka San oo Zumbi noqday isagoo June dhulka dhigay. June waxa uu isaga dhigayaa meydka haweeneydii taasoo u suurtagelisay inuu baxsado. Albaabka ayuuna ka xirtay. June waxa uu cunay cuntadii kadibna waxa uu isku xirxiray fiiladii si uu anteena ugu helo sameecadda, balse way u shaqay weysay. Kadib waxa uu bacda ku riday xoogaa cunto ah asigoo u dhiibay Yubin. Waxa ayna iska wareysanayaan xaaladihii ay soo mareen ayagoo isku dhiirigelinaya. Yubin ayaa waxa ay u sheegtaa in ay ku fikirtay inay nolosha isdhaafiso. Markaasay waxa ay maqleen buuq ayagoo moodo roob, balse markii ay fiiriyeen banaanka waxa ay arkayaan dhammaan Zumbiyadii magaalada oo soo koraya dhismaha ay saarnaayeen. Labadoodu waxay isku dayayaan inay aamusaan si kadisa. Yubin ayaa qalad samaysay waxa ayna dareensiisay halka ay joogto Zumbiga. Waxa mar kale wada hadlaya Yubin iyo June. Yubin waxa ay sheegtaa in dabaqa 8aad uu bannaan yahay. Waxa ayna go'aansadeen inay halkaas ku kulmaan. June waxa uu rabaa qorshe uu ku tagi karo, laakiin Yubin si geesinimo leh waxa ay uga soo booday dabaqi iyadoo adeegsanaysa xarqo. Si degdeg ah ayayna dhulka u tagtay. Zumbi ayaa isla markiina eryanaya, balse si xirfad leh ayay uga baxsanaysaa. Mararka qaarna waxa ay adeegsanaysaa faas. Intii ay ordaysay waxa ay si kadisa u heshay baskoolad oo boolisku lahaa. Mid ka mid ah Zumbiyada ayaana ku boodaya, balse inta uusan qaniinin June ayaa garaacaya. Hadda si wada jir ah ayay Zumbiga ula dagaalamayaan. Ugu dambeyntii waxa ay galeen dhismihii. Waxa ayna xireen albaabka iyagoo ka cararaya Zumbiga soo koraya dabaqa. Markii ay dabaqa 8aad gaaraan waxa ay raadinayaan qol maran. Si kadisa waxa ay maqlayaan buuq waxa ayna ogaanayaan in Zumbi uu joogo dabaqan. Yubin waxay si degdeg ah u raadsataa qol furan. Markaas albaab ayaa furmaya waxaana ka soo baxaya nin afduuban. Way ka cabsadeen balse Yubin waxa ay dareentay inuu yahay nin naxariis badan. Wuxuuna la wadaagayaa raashin iyo biyo. Waxa uuna u sheegayaa war ay ku faraxaan isagoo leh waxaan helaa mararka qaar anteeno, isagoo oo maqlay in ay imaan doonaan kooxda samata bixinta. Labadooduna aad ayay u farxeen, laakiin si lama filaan ah June wuu miir beelaa. Ninkii waxa uu biyaha ugu darayaa daawo. Yubin waxa ay cabtay biyo yar sidaas darteed waxa ay dareemaysaa madax xanuun. Waxa uuna geynayaa qol kale. Qolkaas waxa jooga haweeney ninkan xaaskiisa ahayd oo Zumbi noqotay oo ilmaheedii hore u cuntay. Ninku waxa uu ku xiray xarig si uu isaga celiyo. June waxa uu ka kacayaa hurdada waxa uuna baskooladii ku qabtaa ninkii isagoo weydiinaya in go'aankiisa uu dib uga fikiro, balse ninku wuu diidayaa in uu ka laabto. Laakiin ninku waxa uu raadinayaa midi. Yubin waxa ay si xoog leh ula dagaalamaysaa Zumbigii, laakiin aad ayuu u xoog badan yahay. Ugu dambeyn Yubin waxa ay jukumaan wajiga uga daboolaysaa Zumbigii. Markaas ayaa ninku albaabka furaya si uu u arko waxa dhacay. Isla markaas Yubin waxa ay xaaskiisa ku tuurtaa isaga, waxayna bilowday inay isaga cunto. Yubin waxa ay toogataa labadooda si ay u dhamaystirto. Waaqa risaasta waxa dareemaya dhammaan Zumbiga banaanka jooga. Markii ay Yubin siisay baskoolada June waxa ay weydiisanaysaa in uu dilo, balse markii hore wuu diidayaa. Balse markii ay tiraahdo waa inaan dhintaa wuu u ogolaanayaa inuu toogto. laakiin ka hor inta aysan toogan waxa uu maqlayaa buuq. Diyaaradaha samata bixinta ayaa imaanaya. Labadoodu way dadaalayaan, ugu dambeyntii waxay gaarayaan saqafka sare ee dhismaha, halkaas oo ay ka heleen askar la dagaalamaysa Zumbiga. Diyaarad helicopter ayaa u imaanaysa, waxayna ku baxsanayaan diyaaradda ayagoo arkaya magaalada burburtay. June waxa uu helayaa fariin ka timid qoyskiisa ayagoo u sheegaya in ay nool yihiin. Intii uu fiirinayo magaalada waxa uu xasuusanayaa qoraaladii oo dhiga baraha bulshada oo ahaa waa inaan noolaadaa, waxa uuna ku bedelayaa waa noolahay. Sidaa ayuuna filim ku dhamaanayaa. Waa ku maasan tahay. Subscribe, like, share.
intaana filimka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka subscribe dhaadaan muuqaalkan aad like saartid waa ku mahadsantahay daawashadaada sanadkii 2009 intii uu socday dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Taliban waxa ay saldhig ka sameysteen waqooyiga Afghanistan si ay ula dagaalamaan Taliban dadka deegaankan ay hubka uga dhigaan mid ka mid ah saldhigyada waxaa la oran jiray BRT oo ku yaala dooxo ay geesaha ka xigaan buuro saldhigan ciidamadu waxa ay u yaqaaneen dooxadii dhimashada maadaama ay geesaha ka xigaan buuro aad u waaweyn habeenada kamid ah waxa saldhiga la keenay askar cusub inkastoo aysan ku faraxsanayn haddana waxa ay la shaqeynayaan askartii hore subaxii xigtay askarta cusub waxa ay daawanayaan buuraha halka askarta kalena ay u sharaxayaan sida lama filaanka ah ee buuraha loogu soo weeraro waxa ay arkayaan Saahid ayaa isu diyaariyay in uu toogto balse askari kale ayaa ka celinaya waxa uu sheegayaa inuu asagu karso doono isla waqtigaas Taliban waxay buuraha ka soo bilaabeen xabad isla markii askartu waxay bilaabeen difaaca inay galaan ayagoo isku dayaya inay ka jawaabaan weerarka iyo qaraxyada ka bilowda saldhigga maadaama weerarka oo lama filaan ahaa waxa ay xabadii ka dhamaadeen ciidanka Carter ayaa loo diray in uu keeno xabadaha laakiin xabado qaldan ayuu keenay kadib waxa uu laabtay dib askartu waxa ay sii wadaan dagaalka waxa ayna adeegsadeen hub culus taasoo si degdeg ah guul ugu keentay kadib Galgos waxa uu feer ku dhufanayaa Yangar sababtoo ah rasaas ayuu u dhaweeyay madaxiisa markii dambe Carter waxa uu keenay rasaastii saxda ahayd balse waxa lagu canaantay in dagaalka uu socdo oo dood galay meel u dhow askartu waxa ay arkayaan in wajigiisu ay qayb maqantaa wayna qaylinayaan ayagoo u yeeraya dhaqaatiirta dhanka kale Captain Kitty waxa uu canaantay askari daayar oo lagu qabtay asigoo cabaya xashiish waxa uu u sheegay in uu mushaarka ka jari doono Captain Kitty waxa uu darajada askariga u dhigay hoos waxa uu ka ilaaliyay firaaqa maalintii xigtay Captain Kitty waxa uu ku dhawaaqayaa in ciidamadu ay xiriir wanaagsan la sameeyaan dadka deegaanka waxa uu abaabulayaa kulan ay muslimiinta iyo dadka deegaanku ay ku yeelanayaan arrimo muhiim ah wax yar kadib askartu waxay tagayaan goobta shirku ka socdo ayagoo la kulmaya odayaasha deegaanka inkastoo dadka deegaanka ay hubaysan yihiin Captain Kitty waxa uu iska dhigayaa hubka si uu u muujiyo nabad iyadoo turjumaan uu yahay Maxamed Captain Kitty waxa uu odayaasha u sheegayaa in loo baahan yahay in la kala saaro shacabka iyo Taliban si loo ilaaliyo badqabka shacabka waxa uu ballan qaadayaa lacago iyo qandaraasyo dood dheer kadib dhammaan odayaashu waxa ay ku qanceen inay hubka dhigaan Captain Kitty waxa uu hab siinayaa odayaasha si uu ugu mahad celiyo habeenkii askartu waxa ay karsanayaan hilib si ay ugu dabaaldegaan guusha ay gaareen maanta maalintii xigtay mar kale waxay rasaas ka bilaabatay buuraha askartu waxay si dhaqso ah u galeen difaacooda laakiin maalintaas ma sii dheeraan weerarku daqiiqada kadib Harti waxa uu qolkiisa ka jiidayaa Yangar asigoo ku qaylinayo sababtoo ah Yangar waxa uu haday sawirka xaaskiisa Harti waxa uu Yangar ku amrayaa in uu bush af sameeyo asigoo ku raali gelinayo sawirka xaaskiisa laakiin Yangar waxa uu shuminayaa sawirkanka kale Captain Kitty waxa uu helayaa amar ah in gaari weyn oo dagaal la geeyo tuulo u dhow saldhigga oo uu ku yaalo saldhig kale askarta kale waxay uga digayaan wadada cariiriga ah ee ku taala buuraha Captain Kitty waxa uu sheegayaa in amaradu ay yihiin kaliya in la qaato isaguna uu wadi doono gaariga weyn saacado kadib gaariga yar ee laga hormarinayo gaariga weyn isagoo maraya wadooyinka cariiriga ee buuraha dulmara gaariga Saahid ayuu u weyn yahay taayiradiis mararka qaar geeska ayay uga baxayaan jidka waxa loo sheegayaa markii la gaaro habeenkii waa inay istaagaan haddii ay dareemaan wax shaki ah iyagoo wadada ku sii jiro gaariga yar ayaa ku siganaya inuu wadada ka dhaco laakiin wuu badbaaday balse markii gaariga weyn dhaqaajiyay waxa uu si xun uga dhacayaa buurta kadibna waxa uu sameeyay qarax aad weyn taas oo keentay in Captain Kitty iyo askartii la socday ay dhintaan markii lagu laabto saldhigga askartii dhimatay waxa loo sameeyaa aas qaran muddo kadib Alaska ayaa imaanaya asigoo ah taliyaha cusub ee saldhigga loo soo magacaabay askartu waxa ay tusayaan saldhigga iyagoo uga waramaya dhibaatooyinka weerarada u imaanaya dhanka buuraha si lama filaan ah weerar qarax ku bilowday ayaa ka dhacaya saldhigga mid ka mid ah askarta waxa uu ku jiray Qubays waxa uu isku dayayaa inuu caawiyo saaxiibadii isagoo u soo baxay banaanka markii uu weerarku dhamaado taliyaha Alaska waxa uu dirayaa roondo kooxdu way raacayaan amarka taliyaha balse way ka cabanayaan roondadan ayagoo uu arkaya inaysan wax soo kordhayn Romaj waxa uu tusayaa askarta kale haddii uu soo weerar lahay saldhiggan sida uu uga faa'iideysan lahaa meelaha jilcan sida inuu burburin lahaa matoorka iyo kaydadka maalmo kadib askari wuxuu arkayaa nin ka mid ah dadka deegaanka oo sawir ka qaadaya agagaarka saldhigga waxa uu eryanayaa ninka laakiin waxa uu ku sigtay inuu baxsado markii dambe askari kale ayuu ku dhacay sidaas ayaana lagu qabtay markii taleefanka laga qaado waa la xirayaa shir kale ayaa la qabanayaa laakiin markaan qayb odayaasha kamid ah way maqan yihiin odayaashu waxay ka cabanayaan in lacagtii uu ballan qaaday Captain Kitty aan la siin laakiin taliyaha Alaska waxa uu sheegayaa in lacagta la bixi doono markii la baaro waxa ku jira taleefankan galabtii Maxamed oo ahaa turjumaan waxa uu ka imaanayaa tuulada isagoo u sheegaya inay Taliban diyaarinayso weerar aad u ballaaran sababtoo ah tuulooyinka dadkii deganaa lacagtii loo ballan qaaday in ay waayeen balse digniinahan si dhab ah uma qaadan askarto sababtoo ah maalin walba wuxuu la imaadaa digniino cusub markii dambe taliyaha Alaska waxa uu hogaaminayaa koox ronda ah halka Maxamedna uu dhageysanayo raadiyaha Taliban balse waxa uu sheegayaa inuusan fahmin lahjada qaar ay ku hadlayaan
markii ay bundada yimaadaan askari ayaa loo dirayaa si ay u baaraan in bundadu ammaan tahay kadib Alaska iyo Younger ayaa raacaya bundada laakiin bundada qarax weyn ayaa ka dhacay waxa aana ku dhintay Alaska Youngerna wuu badbaaday Younger dhiig ayaa wajiga u halaabayo taasoo qalbigiisa ku reebta argagax habeenkaas askartu waxay isku dayayaan inay murugada isaga baabi'iyaan muusig Romaj waxa uu maqlayaa dhawaaq waxa uuna samaynayaa inuu baaro dhawaaqa waxa uu arkayaa askari gariiraya oo kaligiis ah isla markaana qori gacanta ku hay Romaj waxa uu si tartiib uga qaadayaa qoriga waxaana imaanaya diyaarad helicopter ah waxa ayna qaadaysaa askarigii dhibaatada maskaxeed ku dhacday Youngerna wuu raacayaa diyaaraduna waxa ay keentay taliye cusub oo lagu magacaabo Broward waxa uuna ku dhawaaqayaa in saldhigga la xiri doono June waxa uuna farayaa askarta inay xoogga saaraan xiritaanka saldhigga ilaa laga gaarayo waqtigaas maalintii xigtay askartu waxay taliyaha siinayaan aqoonsi oo leeyahay qof deegaanka ah oo ay ka heleen bundada agteeda waxa ayna aaminsan yihiin in uu leeyahay qof kamid ah shaqaalaha warshada biyaha ayna uga shakisan yihiin inuu wax ka fududeeyo dilka taliyaha sidaa darteed waxa ay doonayaan inay raadiyaan qofkaas taliye Broward waa u diidayaa in ay baaraan sababtoo ah wuxuu u sheegayaa inay khilaafsan tahay xeerarka dagaalka waxa uuna u sheegayaa in arrintaas loo daayo sargaalka baaritaanka qosaysa dhammaan cabashooyinka Romaj askartu waxay ku dadaalayaan in ay howlahooda joogtada ilaaliyaan mar kale weerar kale ayaa ka imaanaya buuraha askartuna waxay isku dayayaan inay ka jawaabaan Romaj waxa uu wacayaa taliyaha waxa uuna weydiisanayaa gurmad laakiin taliyuhu waxa uu weydiinayaa in marka hore la helo cadeymo sax ah si loo adeegsado hubkan kadib markii la xaqiijiyo waxa loo fasaxayaa hubka markii uu weerarku dhamaado taliyuhu wuxuu mar kale ka hadlayaa xeerarka dagaalka isagoo askarta u sheegaya in aysan suurtagal ahayn in la toogto qof looga shakiyo kaliya iyadoo aan la helin cadeymo la hubo ama hub Romaj waxa uu isku dayayaa inuu mar kale cabasho sameeyo maadaama weeraradu ay si joogto ah u socdaan balse taliye Broward ma doonayo inuu hubka ku qasaariyo meel cidla ah ama uu sii xumeeyo xiriirka dadka deegaanka ugu dambeystii taliye Broward waxa uu sheegayaa ciidanka inuu cadaadis kaga yimid dhanka madaxweynaha Afghanistan oo doonaya in aysan bixin bisha June askartana loo kordhi doono min $1,000 waxaana loo sheegayaa in bixitaanku ay suurtagal tahay bisha October inkastoo askartu ay u hoggaansataa amarada balse waxay maalin kasta sii nacayaan taliyahan gaar ahaan sababtoo ah qolkiisa waxa uu tagayaa dhalooyin uu ku kaadiyay isagoo askarta ku amraya in ay ka saaraan maalin kale inta ay qadeynayaan ayuu Carter u tagayaa taliye inuu lagu magacaabo Banderman waxa uu u sheegayaa taliyahan in ciidanku ay sii nacayaan iyo amaradiisa ay u muuqdaan kuwa cabsi ku jirto wayna adag tahay inuu wax soo kordhiyo laakiin Banderman waxa uu sheegayaa taliye Broward in uu galay dagaallo inta ay galeen ka badan dhamaantood ayna waajib tahay in ay raacaan amarkiisa roob ayaa bilaabanayo Carter wuxuu askari kale kala sheekaysanayaa diimaha inta ay joogaan waardiyaha habeenkaas dhaqdhaqaaq ayaa laga dareemayaa buuraha waxaana meel fog ka dhacaya qarax aad weyn Broward waxa uu ogolaanayaa in la tuuro madfac ayagoo uga la jeeda digniin ahaan subaxii kulan ayaa la qabtaa si loo falaqeeyo xaaladaha haddii habeenkii Taliban ay wax weerari karto waxa ay haysataa qalab casri ah oo habeenkii wax lagu arki karo laakiin ma oga meesha ay ka heleen kulankaas waxaa joojiyay imaatinka odayaasha deegaanka odayaashu waxay wataan gabar dhimatay waxayna ku eedeynayaan in ciidamada Mareykanku ay dileen askartu waxay dareemayaan in gabartu ay dhimatay maalmo ka hor Taliban ay si kaas ah u dishay si ay ugu eedeeyaan ciidamada Mareykanka taliye Broward waxa uu go'aansanayaa in uu lacag siiyo si uu uga fogaado wax dhib ah inay uga imaadaan odayaasha mid ka mid ah odayaasha ayaa wuxuu sheegayaa inay og yihiin ciidamada Mareykanka inay bix rabaan taasoo ahayd xog sir ah aan la ogeyn si lama filaan ah odayaasha mid ka mid ah ayaa qayliyay isagoo sheegaya in ay qaniinay Broward waxa uu tooganayaa eygii isagoo canaanta askarigii haye muddo kadib askartu waxay ku madadaalanayaan tartan ah cidda ku adkaysan karta biyaha afka loo qashubayo madadaaladaas waxaa joojinaya taliye Broward oo sheegaya in xilkii laga qaaday lana keeni doono taliye cusub dhowr toddobaad gudahood waxa kale oo uu xaqiijiyay askarta in saldhigga la xidhi doono 6 October Banderman ayaa taliye ku meel gaar noqday inta uu ka imaanayo taliyaha cusub waxa uu u sheegayaa askarta inay la hadli karaan qoysaskooda laakiin aysan u sheegi karin in saldhigga la xirayo si aysan xogta u gaarsiin cadawgooda dhammaan waxay u cararayaan taleefanada si ay u xiriiriyaan qoysaskooda waxa ayna dareemayaan xamaasad iyo murugo markii ay maqlaan xaaladaha guryaha iyo sida looga baahan yahay inay soo laabtaan subaxii hore October 3 2009 Maxamed oo orday ayaa imaanaya saldhigga waxa uu u sheegayaa dhammaan dadka tuulada inay qaxeen sidoo kale saldhiggan ay ku hareeraysan yihiin kumanaan ciidanka Taliban mar kale looma qaadan hadalkiisa si dhab ah laakiin markii ay kaamirada ku eegeen miraayadaha wax ka arka meel fog waxa ay xaqiiqsadeen hadalkii Maxamed qaraxyo ayaa ku bilowday saldhigga askartuna waxay ka soo boodayaan sariirihii ay jiifeen si ay difaaca ugu biiraan dagaal toos ah ayaana bilaabmay buuraha ayayna ka soo daadanayaan ciidanka Taliban taliye Banderman waxa uu ku ordayaa qolka isgaarsiinta laakiin waxa uu ku dhacayaa dhulka markii qarax ka dhacay gadaashiisa kaamirooyinku waxa ay muujinayaan in Taliban ay hareeraysay dhammaan saldhigga meel badbaado ahna aysan jirin taliye Banderman si degdeg ah ayuu u qeylinayaa raadeerka isagoo dalbanayo gargaar degdeg ah laakiin waxa loo sheegayaa in duqeynta cirka ay imaan karto 2 saacadood kadib gaadiidka
iyagoo rasaas iska ridaya. Waxa ay arkayaan inay rasaastu ka dhamaanayso. Carter waxaa loo dirayaa rasaasta, sidaa darteed Carter waxa uu cararayaa qolka kaydka si uu u soo qaado rasaas dheeri ah, laakiin way ka fogtaa goobta kaydka. Askar badan ayaa ku qasbanaaday markay rasaasta ka dhamaato inay ku dhuntaan gawaarida. Dhanka kale Romaj waxa uu ku wareegayaa saldhigga isagoo ciidamada ku amraya inay dagaalamaan. Cake wuxuu ku dhuumanayaa dhisme si uu qasnad uga bedelo qorigiisa. Si degdeg ah ayuu uga baxayaa si uu weerar u qaado. Si lama filaana qarax ayaa kala tuuray, kadibna waa sooxay. Saaxiibkii ayaa u jiiday gudaha, waxa ayna dareemayaan in laga gacan sareeyo. Saahid si degdeg ah ayuu u ordayaa taliya Banderman, waxa uuna ka baryayaa in gargaarka degdega ay helaan una baahan yihiin duqeymo cirka ah. Waxa uuna u sheegaa askartu inaysan sii dagaalami karin haddii aysan haysan rasaas. Banderman isagoo careysan waxa uu sheegayaa inuu sameeyo waxa uu awoodo. Waxa uuna si xoog leh uga saarayaa dhismaha. Isbitaalka dhaqaatiir yar ayaa joogta, waxa ayna ku mashquulsan yihiin daaweynta dhaawacyada, mana awoodaan inay u tagaan kuwa ku dhaawacmay difaaca. Hal askari ayaa isxilqaamay, waxa uuna bilaabay inuu ku dhex ordo saldhigga isagoo ka dhuumanaya rasaasta iyo qaraxyada. Marar badan ayuu dhaawacmay intii uu socday. Ugu dambeyntii waxa uu gaaray dhismaha. Markaas askarta kale ayaa caawinaysa, waxa ayna saarayaan sariirta dhaawaca. Waxa ayna bilaabeen inay ku ordaan isbitaalka ayagoo ka gambanaya rasaasta. Qolka Saida waxa ka jirta buuq aad weyn, sababtoo ah askari kasta waxa uu rabaa inuu rasaasta geeyo meel kasta kamid ah saldhigga. Kuuso waxa la siinayaa rasaasta loogu talagalay kooxda ku xaniban gawaarida, laakiin isla markii uu baxaba waa la toogtay. Askari kale ayaa tuuraya bombada qiica si ay uga gambadaan. Waxa ayna dhaawacii u qaadeen isbitaalka, laakiin nasiib darro isla markii uu dhintay. Cake weli wuu nool yahay, laakiin garaaca wadnihiisa Said ayuu u sareeyaa. Carter waxa uu aruursanayaa rasaasta inta uu qaadi karo. Waxa uuna bilaabayaa inuu dhex maro saldhigga isagoo isku qarinaya darbiyada. Ugu dambeyntii waxa uu gaarayaa mid kamid ah gaadiidka. Waxa ayna wadaagayaan rasaasta. Romaj waxa uu sii wadayaa inuu si qarsoodi ah ugu dhex wareego saldhigga isagoo adeegsanaya hub kasta oo uu heli karo. Bam gacmeed ayaa ku qarxaya meel u dhow. Waxa uuna boodayaa si uu uga fogaado qaraxa, laakiin gacantiisa way dhaawacmatay. Waxa uu isticmaalayaa raadiyaha asigoo raaligelin u diraya askarta ku jirta gaariga, maadaama uu ka shaki qabo inuu gaari karo. Waxa uu tagayaa isbitaalka asigoo hubinaya xaaladda Cake, laakiin wuu dhintay. Romaj aad ayuu uga murugoonaya arrintaas. Waxa uuna soo qaatay qori si uu u toogto shishyaankii toogtay askarta badan. Ugu dambeyntiina wuu dilayaa. Dagaalkii ayaa sii soconaya iyadoo qaraxyo weli ay dhacayaan. Arti wuxuu rasaasta u geynayaa qolo kale oo ku xaniban gaari, laakiin markay isku dayeen inay dhaqaaqaan, gaarigu waxa uu ku dhagayaa meel dhagax ah. Markaas ayay ogaadeen inay Taliban soo jebisay difaacii saldhigga. Kooxdii askarta waxay ka degeen gaariga si ay u dagaalamaan, laakiin Harti si dhaqso ah ayaa loo dilayaa, kuwa kalena waa la laayay. Hal askari kaliya ayaa ka badbaaday, waxa uuna u cararayaa Romaj si uu ugu wargeliyo. Romaj iyo Said waxay isla markiiba bilaabeen inay toogtaan kooxdii soo jabsatay saldhigga. Askarta waxaa la ogeysiinayaa Taliban inay soo jabsato meelo badan oo kamid ah saldhigga. Taliya Banderman waxa uu helayaa wicitaan sheegaya in gurmadku soo dhow yahay. Qorshuhuna waa in ay qodaan difaac adag si ay isaga caabiyaan inta gurmadka cirka ka imaanayo. Laakiin Romaj ayaa soo galaya oo ku doodaya in saldhigga dib loo qabsan karo. Waxa uuna sharaxayaa in weli rasaas badan ay ku jirto qolka Saida. Qorshihiisuna yahay in uu keeno qorshe uu ku xiri lahaa irida weyn. Qarax ayaana ka dhacay qaybta isgaarsiinta. Banderman waxa uu ogolaasho siinayaa Romaj, sidoo kale wuxuu jarayaa dhammaan isgaarsiinta si aan loo dhageysan hadaladooda. Kooxda ku xaniban gaadiidka wax war ah kama helayaan askarta kale, wayna ka daaleen sugitaankooda. Waxa ayna go'aansadeen in ay tilaabo qaadaan. Waxa ayna ka degeen gaariga ayagoo bilaabay orod. Carter ayaana siinaya daboolka rasaasta la isaga dhigo, laakiin isla markiiba mid ayaa la toogtay. Tarna si degdeg ah ayuu uga cararayaa gaariga isagoo la jiro saaxiibadiisa kale. Waxa uuna arkayaa askari gurguuranaya oo dhiig baxaya. Waxa uuna qaatay daboolka rasaasta la isaga dhigo si uu u caawiyo. Carter waxa uu baxayaa si dhaqso leh, waxa uuna gaarayaa askarigii dhaawacmay. Lugtiisa ayuuna ku xirayaa ka hor inta uusan soo qaadin. Si degdeg ah ayuuna u soo qaadayaa. Romaj waxa uu aruursanayaa xoogay askar ah, waxa uuna si dhuumaalaysiya uga weerarayaa xerada isagoo iska indhatiraya amarkii Taliya Banderman ee ahaa inuu sugto qoryaha waaweyn. Kooxdii waxa ay bilaabeen inay toogtaan wixii ay arkaan oo saldhigga soo galay, kasta oo qiic ka buuxa saldhigga. Kadib markii ay dileen tiro badan oo kamid ah dagaalamayaasha Taliban, waxa ay gaareen iridda hore ee saldhigga. Romaj waxa uu sugayaa inta difaaca cirka uu ka imaanayo. isla markiina bam qiica ayaa kor ka soo dhacaya, taas oo muujinaysa in taageerayaasha cirka ay yimideen. Helicopter iyo diyaarado isqarxinaya ayaa si degdeg ah u dilaya ciidanka Taliban. Carterna waxa uu ku dhiiradaa in uu ka soo dego gaariga mar kale, waxa uuna sii wataa dagaalka isagoo raadiyaha ka xaqiijinaya in duqeynta cirka ay tahay ciidankooda. Markaas ayuu ordayaa gaariga, waxa ayna isticmaalayaan raadiyaha si ay ula xiriiraan Banderman, kaas oo sharxaya in ban weyn oo dhici doono mar dhow. Carter iyo saaxiibkii waxa ay saarayaan kartii dhaawaca ee sariiraha dhaawaca, waxa ayna ordayaan si degdeg ah ayna gaarayaan isbitaalka. Dhaqaatiirtu waxa ay shubayaan dhiigooda. Dhammaan askarta badbaada ay bilaabayaan inay dhiigga u shubaan saaxiibadood. Markii taliye cusub uu yimaado isagoo wata gurmad, inta badan saldhiggii waxaa burburiyay qaraxyadii Taliban. Inkastoo weli ay ku sugan yihiin qaar kamid ah Taliban buuraha u dhow saldhigga, haddana waxaa la sii raadinayaa ayaga si loo duqeeyo. Saldhigga dhexdiisa ciidankii joog waxa ay bilaabayaan iyagoo dhammaan dhex maraya saldhigga si ay u raadiyaan meydad. Maxamed oo ku dhuumanaya kabar ayaa laga soo saarayaa. Markii uu taliyaha cusub uu soo galo, Banderman waxa uu ooyayaa isagoo soo gudbinaya gabi ahaan khasaaraha gaaray. Taliyaha cusub waxa uu ku amaanayaa hoggaankiisa wanaagsan, waxa uuna ku dhawaaqayaa in biri la qarxi doono saldhigga ka hor inta aan laga bixin. Habeenkaas askartii badbaada way isu yimaadeen,
ayagoo qaadaya hees macsalaameyn ah ka hor inta aysan diyaaradaha helikobtarta ah aysan ka qaadin saldhigga. Markii ay duulayaan waxa ay daawanayaan qaraxii u dambeeyay ee burburiyay saldhigga. Dhammaan waxaa la siinayaa xiddiga sharafeed ciidankii ka dagaalamay saldhiggaas, halka Carter iyo Romagna unugyadii ay ka tirsanayeen kuwa ugu abaalmarinta badan dagaalka. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddii aad inta soo gaarto waxaan kaa codsanayaa inaad like, subscribe, share. inta aana filimka bilaabin waxaan xasuusinayaa inaad YouTube-ka subscribe dhaadin muuqaalkan aad like saarto. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Filimkeenu maanta waxa uu ku saabsan yahay mid ka mid ah halyeeyadii soo maray qaaradda Afrika. Sanadkii 1990kii ugu dambeyntii waxa xabsiga laga sii daayay Nelson Mandela kadib 27 sano oo xirnaa. Sii deyntiisa waxaa si xun uga carooday cunsuriyiinta caddaanka ah oo arkay nin argagax ah, balse waxay dhiirigelisay in dadka madowga ah ay si adag uga dagaalamaan xuquuqdooda, taasoo dalka ka dhigtay mid qarka u saaran dagaal sokeeye. Mandela waxa uu jeedinayaa khudbad uu dadka uga baaqayo inay hubka dhigaan, maadaama uu aaminsan yahay in dalka loogu noolaado si midaysan. 4 sano kadib ugu dambeyntii dadka madowga ah way codayeen, taasoo suurtagelisay in Mandela uu noqdo madaxweynaha dalka South Africa. Inkastoo uu yahay nin caan ah, haddana madaxweyne ah ma yaqaan isla weyninka, taasoo keenaysa inuu si xataa sirrihiisa goglado. Mandela waxa uu bartaa dhammaan magacyada shaqaalaha xafiiskiisa, waxa uuna weli sii wataa socodkiisii subaxnimo. Inkastoo hadda uu la socdaan laba waardiye, dadka caddaanka ah weli kuma qanacsan natiijada doorashada. Dhammaan wargeysyadu waxay isweydiinayaan in uu yahay nin awood u leh inuu xukumo dalkan. Cadawga Mandela waxa ka mid ah waalidiinta Francos oo ah kabtanka xulka qaranka. Waxa uuna dhageysanayaa hadallada ka soo yeeraya aabihii oo leh, wiilkaygu waxa uu lumi doonaa mustaqbalkiisa maadaama dalka hadda ay xukumaan dadka madowga ah. Subaxii ugu horreeyay Mandela ee xafiiska waxa uu arkayaa miisas maran iyo shaqaalaha oo xirxiranaya alaabtooda. Dadka caddaanka ah waxa ay rajeynayaan in la eryi doono. Mandela waxa uu qabtaa kulan uu ku sheegayo in qof walba uu xor u yahay in uu tago haddii uu asigu rabo, balse qof looma eryi doono afkiisa iyo midabkiisa. dhexdhexaadnimadana sidoo kale waxay saameynaysaa waardiyaashiisa, kuwaasoo loo baahan yahay in la kordhiyo. Ilaalada madow kuma qanacsana fikraddan, waxa ayna xasuusiyeen Mandela in nimankanu ay yihiin kuwii isku dayay dhowaan inay dilaan, laakiin Mandela waxa uu aaminsan yahay fariinta uu bulshada u dirayo inay tahay mid muhiim ah. Haddii uu rabo qaran midaysan, waa inuu asiga tusaale u noqdaa isu soo dhoweynta iyo cafinta, taasoo meesha ka saaraysa cabsida. Fikraddan weli si fiican uguma helin ilaaliyaashiisa, balse waxay u hoggaansamayaan amaradiisa. Waxa ayna bilaabayaan in waardiyaasha cusub ay baraan sida loo ilaaliyo madaxweynaha. Tusaale ahaan, Mandela waxa uu rabaa xataa waa inay dhoola cadeeyaan haddii xitaa ay bulshada gadaal u riixayaan. Hawshoodii ugu horreysay waxa ay noqotay waa inay ilaaliyaan madaxweynaha intii lagu jiray ciyaarta u dhaxaysa Springboks iyo England. Springboks waa koox ka kooban inta badan ciyaartoy caddaan ah, marka laga reebo Jester. Inta badan taageerayaasha kooxdan waa kuwa ka soo horjeeda Mandela. Xaaladuna waa mid aad u kacsan. Dadka madow ee Koonfur Afrika waxa ay taageerayaan kooxda England halkii ay taageeri lahaayeen kooxda dalkooda ka soo jeeda. Mandela si buuxda ayuu u aaminsan yahay waardiyaashiisa, waxa uuna si buuxda ugu soo baxaya garoonka isagoo isku dayaya inuu gacan qaado labada koox, isagoo iska dhatiraya kuwa buuqaya. Si uu dadkiisa u dhiirigeliyo, waxa uu la hadlayaa dadweynaha. Sidoo kale waxa uuna u mahad celinayaa dadka daawanaya ciyaarta. Ilaaliyaashiisa waxa ay ka saareen garoonka daqiiqada ka hor inta aysan bilaaban ciyaartu. Nasiib darro, Springboks waa ku guuldareysatay ciyaarta, taasoo muujinaysa mustaqbalka madow ee sugaya koobka kooxaha adduunka ee lagu qaban doono dalka Koonfur Afrika. Falaqeeyaha ciyaarta ee Johan waxa uu leeyahay Springboks waxa ay guuldaro u keeni doontaa xulka qaranka, mana mudna inay xirtaan maaliyadda. Si kasta oo ay xaaladdu uga sii darayso, Mandela waxa uu helayaa fariin ka timid gabadhiisa oo sheegaysa in ay baaqisay kulankii iyadoo aan sabab cad sheegin. Sumcadda Springboks ayaa hoos u dhacday ilaa uu wiil madow diiday inuu xirto maaliyadda kooxda, isaga oo ka baqaya haddii uu xirto shaarka in la garaaco. Maalintii xigtay, golaha ay madowga hogaaminayaan waxa ayna go'aansanayaan in Springboks laga qaado magaca iyo maaliyadda iyo midabka, inkastoo xoghayihiisa uga digayo tallaabada ay ku yeelan karto sumcaddiisa. Mandela waxa uu go'aansaday inuu soo farageliyo asigoo kulanka ka jeedinaya khudbad, una sheegay in uu taageersan yahay Springboks. Waxa uuna tusaale u soo qaataa waayihiisa xabsiga, isagoo u sheegaya in caddaanku ay xireen balse hadda aan lahayn cadow ee la yahay dad siman. Nasiib darro, Springboks waxay ku guuldareysatay ciyaartii xigtay. Mandela waxa uu bilaabayaa safar uu ku tagayo wadamo kala duwan, ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Jabbaan, isagoo halkaas ka jeedinaya khudbado. Markii uu soo laabto, waxa uu ku jiraa socodkiisii subaxnimo, balse wuu niyadjabayaa markii uu mid ka mid ah waardiyaashiisa cusub u weydiiyey qoyskiisa. Mandela si cad ayuu uga xanaaqayaa, waxa uuna ku laabanayaa gurigiisa, waxaana ilaaliyihiisii hore u sheegayaa ilaaliyaha kale in Mandela ay kala tageen xaaskiisii. Subax kale, Mandela waxa uu arkayaa war weyn oo ku qoran jaraa'idada oo sheegaya in heerka dambiyada ay kor u kaceen, iyo macallinkii iyo maamulaha Springboks oo laga eriyo shaqadii. Laakiin Francos weli waa kabtan, taasoo Mandela farxad gelisay. Saacado kadib xafiiska, Mandela waxa uu qaatay mushaarkiisii ugu horreeyay asiga oo la yaabaya inta uu leegyahay, isagoo go'aansaday in mushaarkiisa 3 meelood meel uu sadaqeeyo, isagoo rajeynaya in siyaasiyiinta kalena ay sidaas sameeyaan.
waxa kale oo casuumaad u fidinaya Francos si ay u wada shaahaan ugana wada hadlaan mustaqbalka Springboks. Francos waxa uu sheegayaa inuu si fiican u hogaamin doono. Mandela waa la qabaa fikirkaas, balse waxa uu sheegayaa inay kooxdu u baahan tahay dhiirigelin si ay heer sare u gaarto. Markii uu Francos baxayo, waxa uu fahmayaa in Mandela si dadban uga codsanayo in uu u baahan yahay in kooxdu ay ku guuleysato koobka adduunka. Dhowr toddobaad kadib, Mandela waxa uu la kulmayaa gabadhiisa, balse way ka xanaaqsan tahay sababtoo ah waxa uu shaqaaleysiiyay booliskii ka saaray qoyskiisa guriga intii uu asigu xirnaa. Waxa ayna si degdeg ah u soo afjaraysaa wada hadalkiisa. Kadib Mandela waxa uu la xiriirayaa qabiir ciyaaraha si uu wax uga barto ciyaaraha rugbyga. Markii uu maqlay in ciyaaraha ay daawan doonaan malaayiin qof, waxa uu la yimid qorshe uu ku tusayo South Africa dhabta ah dunida. kooxda Springboks waxay si adag u tababaranaysaa markii uu imaado madaxa badda cagta una sheegay in kooxdu ay tababar sii doonto carruurta tuulooyinka saboolka ah ee dalka oo dhan. Ciyaartoydu kuma qanacsan arrinkan, balse waa inay amarka qaataan sababtoo ah fikirkan waxa uu ka imaaday Nelson Mandela. Captain Francos waxa uu taageersan yahay qorshaha. Maalintii xigtay, kooxda waxaa la geynayaa mid ka mid ah tuulooyinka ugu saboolsan. Carruurtu waxa ay garanayaan kaliya Chester oo si farxad leh loo soo dhaweynayo, laakiin saacado kadib carruurtu iyo ciyaartoyduba si weyn ayay u wada baashaalayaan. Markii la gaaro dhamaadka maalintii, kooxdu waxay laabanaysaa iyadoo dhiirigelin haysato. Muuqaalkii tababarkaas ayaa lagu soo bandhigayaa warbaahinta. Waxa uuna Mandela u soo bandhigayaa golihiisa wasiirada asigoo u sheegayo in muuqaalkan uu ka qiimo badan yahay boqolaal khudbadood oo aan jeedi lahaa. Diyaarad ay dusheeda ku sawiran tahay Chester oo ah halka ciyaartoy oo madowga ah ee ku jira ciyaartoyda ayay bilaabeen inay kooxdu ku safraan, waana qayb kale oo ka mid ah ololaha dadka lagu midaynayo. Dad badan oo madow ah ayaa bilaabaya inay taageeraan kooxda meel kasta oo ay tagaan. Joan oo ah falaqeeyaha ciyaarta wuxuu sheegayaa inuu rajo fiican leeyahay. Mandela waxa uu bilaabayaa inuu xasuusto dhammaan magacyada ciyaartoyda markii uu salaami tago si uu ugu dhawaaqo magacooda. Waxa uuna ka soo muuqanayaa barnaamijka Johan si uu ugu dhiirigeliyo dadweynaha taageerida kooxda qaranka. Kooxda Springboks waxa ay wax walba ku ordayaan wadooyinka. Francos waxa uu isku dayayaa inuu ku qanciyo ciyaartoyda inay si fiican u bartaan heesta calanka. Nasiib darro, inta badan ciyaartoydu way diidayaan. Maalin ka hor ciyaartii ugu horeysay ee koobka adduunka rugbyga, Nelson Mandela waxa uu booqdaa kooxda. Nasiib wanaagsan ayuu u rajeynayaa isaga oo ugu yeeraya magacyadooda. Francos waxa uu sheegay in Chester uusan joogin ciyaartan sabab dhaawac darteed. Mandela waxa uu siinayaa warqad uu ku qoray gabay oo ka mid ahaa gabayadii uu isku dhiirigeli jiray intii uu ku jiray xabsiga. Maalintii xigtay, Nelson Mandela waxa uu ka qayb galayaa ciyaarta. Waxa uu la dabaaldegayaa dadweynaha kadib markii Springboks ay garaacday Australia. Habeenkaas Mandela waxa uu ka qayb galayaa casho sharaf halka ay kooxdu ku dabaaldegayso baarka. Francos waxa uu xasuusinayaa in ciyaartoyda laga rabo inay 6 subaxnimo soo toosaan. Subaxii xigtay, Francos waxa uu hogaaminayaa ciyaartoyda si ay u tagaan dekedda, halkaas ayagoo doon ka raacayo si ay u gaaraan Robben Island oo ah jasiirad. Halkaas Mandela waxa uu ku xirnaa 18 sano oo ugu horeysay xabsiga. Francos waxa uu arkayaa qol yar oo ku xirnaa jira Mandela, wuuna la yaabayaa sida madaxweynuhu uga dulqaatay sanado badan oo xabsi ah, haddana uu cafi karo kuwii xiray. Markii ay waardiyaashu u yimaadeen Mandela si ay ugu wadaan socodkii subaxnimo, waxa ay arkayaan isagoo miyir beelay ee yaal banaanka guriga. Dhakhtarku waxa uu sheegayaa in Mandela uu si aad u daalan yahay oo ka qayb gali karin ciyaarta soo socoto, laakiin Chester uu ka qayb galayaa. Springboks wayna guuleysanaysaa ciyaartaas. Ciyaartii xigtay waxa ay la ciyaarayaan Faransa, wayna ka badanayaan iyadoo roob saa'id u da'ay. Mandela oo ku maqnaa markaas heshiis ganacsi waxa uu maqlayaa inay kooxdu gaarto final. Nelson Mandela waxa uu fiirinayaa jadwalkiisa isaga oo hubinaya inuu ka qayb gali karo ciyaartaas. England waxa ay ku haraysaa semifinalka, sidaa darteed waxaa final imaada kooxda cabsida badan ee All Blacks ee ka dhisan New Zealand. Guulaha ay kooxdu gaartay waxay keenaysaa saameyntii uu rabay Nelson Mandela. Shacabka oo dhan ayaana hadda taageeraya kooxda. Waardiyayaasha Mandela waxay bilaabayaan inay wada ciyaaraan ciyaarta rugbyga iyagoo hadda uu ka baay cabsidii kala shakigii. Francos waxa uu tigidhada ciyaarta u geynayaa Nelson Mandela isaga oo siinaya mid ka mid ah gabadha shaqaalaha ah. Markaas Mandela waxa uu dalbanayaa in taariikhda All Blacks wax looga sheego. Mandela waxa uu fahmayaa sababta ay u cabsi badan yihiin kooxdan. Waxa uu bilaabayaa siyaabo uu ku dhiirigeli karo kooxda Springboks si ay uga guuleystaan kooxda All Blacks. Subaxii ciyaarta kama dambaysta ay dhacaysay, kooxda Springboks waxa ay ordayaan sidoodii hore. Dadka xaafadaha dhamaantood waxay bilaabeen inay taageeraan kooxda. Garoonka ciyaartu ka dhacaysay waxa buux dhaafiyay dad madow iyo cadaan isugu jiro. Xitaa wiilkii hore u diiday shaarka kooxda inuu xirto ayaa hadda yimid. Johan halkan ayuu joogaa asigoo si wanaagsan uga hadlaya kooxda. Ilaaliyayaasha si saa'id u taxadaraya halkan garoonka sababtoo ah waxaa jooga saa'id tar badan. Waxa ayna baqdin dareemayaan markii diyaarad si saa'id ugu soo dhawaato garoonka. Nasiib wanaag kuma dhicin garoonka, laakiin waxay fariin nasiib wanaag u direysay madaxweynaha koor inta aysan bilaaban ciyaartu. Fariintaasna waxay noqotay mid aad loo jeclaa. Dadkii madowga ah hadda waxay diyaar u yihiin in ay markay kooxda Springboks garoonka soo gasho ay u sacbiyaan. Mar kale Mandela waxa uu galayaa garoonka isagoo gacan qaadaya labada koox, laakiin markan waxa uu xiran yahay shaarka cagaaran ee kooxda, taasoo muujinaysa in uu taageersan yahay kooxda. Ciyaartu waxay
waxay bilaabanaysaa kadib markii la qaaday heesta calanka. Markaan laakiin kooxda Springboks waxa ay si sax ah u qaadayaan dhammaantood heesta calanka. Kooxda All Blacks waa koox saa'id u xoog badan, waxayna si degdeg ah u bilaabeen inay helaan dhibco saa'id ah, laakiin Frankos waxa uu bedelayaa istiraatiijiyadda kooxda. ugu dambeyntii kooxda Springboks waxa ay awoodeen inay keensadaan barbaro. Waqtigii loogu talagalay ciyaarta way dhamaatay iyadoo natiijadu ay tahay 9-9. sidaa darteed waxaa lagu darayaa 20 daqiiqo oo dheeraad ah. inkastoo ay dhammaan ciyaartoydu daaleen, haddana waxay u ciyaarayaan si adag 5 daqiiqo iyadoo ay ka dhiman tahay ciyaarta. Springboks waxa ay heshay fursad ay ku hormari karto gool, kadibna waa ay difaacdeen waqtigii ka haray ciyaarta, taas oo noqotay istiraatiijiyad guuleysatay. Garsooruhu waxa uu ku dhawaaqayaa firimbiga isagoo sheegaya inay ciyaartii dhamaatay. Springboks waxa ay noqotay horyaalka cusub ee adduunka. Dadka South Africa ayaa guusha si wadajir ah uga dabaaldegaya iyagoonan eegayn midabka. Mandela ayaa guddoonsiinaya koobka Frankos, wayna isgacan qaadayaan ayagoo isugu mahad celinaya waxa ay dalkooda u qabteen. Kadib gaarigii Mandela waxa uu ku xayirmayaa isgoys, sababtoo ah waxaa buux dhaafiyay dadweynaha u dabaaldegaya guusha ay gaareen qarankooda. Mandela waxa uu sheegayaa darawalkiisa in uusan raadin waddo kale, sababtoo ah waxa uu rabaa in uu daawado midnimada ka muuqata bulshadiisa. waa ku mahadsantahay daawashadaada. Subscribe, like, share. inta aana filimka bilaabin waxaan xasuusinayaa inay YouTube-ka subscribe dhaadin muuqaalkan aad like saarto. waa ku mahadsantahay daawashadaada. Kusoo dhawaada filimkeena maanta. Dhammaadkii 2007 dagaalkii Ciraaq ayaa si tartiib u sii dhamaanayay. Madaxweynaha Bush waxa uu ku dhawaaqay guul, waxaana socda howlo dib u dhis ah. Sargaal Maasis iyo ilaaliye kale oo lagu magacaabay Isaaq ayaa loo diray meel saxara ah oo ku taal Ciraaq, halkaas oo laga dhisayo tubo weyn. Dhammaan shaqaalihii Mareykanka ah oo goobta ka shaqeynayay waa la dilay. Hawshoodu waxa ay noqotay inay raadiyaan qofkii dilay dadkan hor inta aanan la keenin shaqaale kale. waxa ay bilaabeen inay isku qariyaan dhir iyo dhagxaan si ay u ilaaliyaan goobta, iyadoo ay jirto qorrax aad u kulul muddo 20 saacadood. Maasis waxa uu bilaabay inuu dulqaadkii ka yaraado, isagoo mooday in aysan jirin askar dambe oo Ciraaqi ah. Markii meydadka la fiiriyo, waxa ay u muuqataa in goobta inta la weeraray kadibna laga tagay. Isaaq waxa uu sheegayaa in aanay jirin raad muujinaya in kooxo badan ay soo weerareen goobtan, isla markaana waxa uu xusayaa in dadka la dilay dhammaantood laga toogtay madaxa, taasuna ay tilmaamayso inuu falkan geystay sniperkii caanka ah ee reer Ciraaq ee Jubba. hase yeeshee Maasis waxa uu rumaysan yahay inay suurtagal ahayn in hal qof uu ku dilo 30 ilbiriqsi intaanoo dad ah. ugu dambeyntii Maasis uu ku daalay sugitaanka wax dhaqdhaqaaq muujinayo, waxa uuna u dhaqaaqay goobta si uu u baaro si loo dilay dadkan, isaga oo ka codsanaya Isaaq inuu ilaaliyo. Maasis waxa uu bilaabay inuu meydadka mid u baaro, isaga oo raadinaya wax caddayn ah. waxa uu bilaabay inuu rumaysto markii uu arkay in dadka laga toogtay madaxa. waxa uuna u dhaqaaqay bartamaha goobta si uu u ogaado halka ay ka yimaadeen rasaastu. halka uu Isaaq ka codsanay inuu u soo laabto dib. lama filaan ah xabad ayaa ku dhacday. Maasisna waa dhacaya isagoo caloosha ka dareemaya xanuun saa'id ah. Isaaq isagoo saa'id u walwalsan waxa uu ordayaa qaab dadab ah si uu uga fogaado rasaas kale. markii uu ku dhawaaday Maasis, isaga ayaa lugta laga toogtay. Isaaq ma awoodo inuu badbaadiyo Maasis, markaasna waxa uu cararayaa dhanka derbiga si uu isugu qariyo. Sargaal Maasis oo weli nool ayaa Isaaq u sheegaya inuu la xiriiro saldhigga si uu gargaar u weydiisto, laakiin marka hore Isaaq waxa uu ogaadaa in dhaawaca lugtiisa uu saa'id u xun yahay. sidaa darteed waxa uu lugta ku xirayaa suun si uu u joojiyo dhiigga. wuxuu qaatay raadiyaha si uu la xiriiro saldhigga, balse waxa uu ogaanaa in raadiyo uusan shaqaynayn, sababtoo ah sniperku waxa uu toogtay anteenadii. lama filaana Maasis mar kale ayuu la xiriirayaa Isaaq, waxa uuna weydiinayaa halka sniperku joogo si uu u toogto, inkastoo Isaaq uga digayo in sniperku dareemi doono dhaqdhaqaaq kasta uu sameeyo kadibna tooga doono. Isaaq waxa uu bilaabayaa inuu dalool yar u sameeyo derbiga uu joogo si uu uga fiirsho, laakiin gacantiisa dhagax ayaa ku soo dhacay oo ayaana gaaray. Kabtan Maasis waxa uu isku dayayaa inuu gaaro qorigiisa, balse wuu meeyr dambalmay, sababtoo dhiig badan ayaa ka baxay. Isaaqna waxa uu midi ku soo saarayaa xabadii ku jirtay, isagoo xanuun saa'id dareemaya. waxa uuna dhaawac ku xirayaa maro, isaguna waqti yar kadib uu meeyr dambalmay. daqiiqado kadib ayuu Isaaq toosaya markii uu maqlo oo sheegaya inuu yahay sargaal ka tirsan ciidanka. Isaaq si degdeg ah ayuu u warbixin u siinayaa, una weydiisanayaa inay u soo diraan gargaar daawo ah, laakiin Isaaq mar kale ayuu bilaabayaa inuu ka shakeeyo codka. kadib markii uu weydiiyay su'aalo aan caadi ahayn, waxa uu sargaalku weydiiyay in uu siiyo tilmaamo sax ah goobta uu ku sugan yahay, ama uu kor u rido rasaas si gargaarka loogu soo rido goobta uu joogo. Isaaqna waxa uu sheegayaa inay tani ka hor imaanayso xeeladaha ciidanka, isla markaana ay khatar gelinayso noloshiisa. markii uu si fiican u dhageysto codka ninka, wuxuu ogaadaa inuusan Mareykan ahayn, waa Jubba, sniperkii Ciraaqiga ahaa, kaasoo jabtay raadiyaha si uu damin ugu dhigay Isaaq. Isaaq ma rumaysan mana dhigin taleefanka, balse Jubba waxa uu weydiinayaa su'aalo. Jubba waxa uu sheegayaa inuu doonayo inuu barto Isaaq. Isaaqna waxa uu isku dayayaa inuu jaro raadiyaha, balse weli ma shaqaynayo. Jubba waxa uu sii wataa su'aalihii aan muhiimka ahayn. markaas Isaaq waxa uu diidayaa inuu ka jawaabo su'aalaha. Jubba waxa uu ku hanjabayaa inuu mar kale tooga doono Maasis, taasoo ah arrin khatar ah haddii uu weli nool yahay. markaas Isaaq waa aqbalaya, wuxuuna Jubba ka codsanayaa inuu asigu bilaabo hadalka. inta uu Jubba hadlayo, Isaaq waxa uu qariirad ku sawirayaa dhulka si uu u qiyaaso jihada ay xabaddu ka imaanayso. Jubba waxa uu sheegayaa inuu yahay muwaadin Ciraaqi ah oo doonaya inuu badbaadiyo dalkiisa, wuxuuna Isaaq ka codsanayaa inuu wax ka sheego qoyskiisa. laakiin Isaaq waxa uu leeyahay taas aniga ii gaar tahay. Isaaqna sidoo kale uu ku maadsadaa fikradda Jubba, isagoo leh dadka aad dilayso waa dadkii waddanka hormari lahaa, kuwa dhisaya tubooyinka iskuulada,
iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Jubba waa qoslaya waxa uuna leeyahay lacagta halkaas laga helo waxaa loo celinayaa Mareykanka. Waqtigu wuu sii socdaa. Jubba waxa uu sii wataa su'aalihii. Isaaqna waxa uu ka fogaanaya inuu ka sheekeeyo shakhsiyadiisa. Jubba mar kale waxa uu ka hanjabayaa inuu tooga doono Maasis, laakiin Isaaq hadda ma rumaysan. Jubba si uu u muujiyay khatartiisa waxa uu sheegayaa iskoobka uu wato Maasis ninkii iska lahaa, wuxuuna xiganayaa hadalkii Maasis ee hore. tanina waxay muujinaysaa Jubba inuu dhageysanayo wada sheekaysigoodii markii ay imaadeen ilaa hadda. Isaaqna waxa uu arkayaa mid ka mid ah meydadka oo leh raadi. Waxa uu isku dayayaa inuu ka soo qaato, balse ma awoodo xitaa haddii uu adeegsado ul, isagoo aan ismuujin. Markaas Isaaq waxa uu isku dayayaa inuu caawiyo, balse dhaladii biyaha ayaa maran sababtoo ah xabad ayaa duleelisay. Jubba waxa uu xaqiijinayaa inuu asiga dhalada si ula kaca u toogtay anteenada iyo lugta Isaaq si uu u dareemo xaaladda xun aan ka baxsiga lahayn, una dhageysto hadalkiisa u dambeeya marka uu dhimanayo. Markii uu Isaaq u fiiriyo xabadii uu ka saaray lugtiisa, waxa uu bilaabayaa inuu qiyaaso sniper-ka qorga uu haysto. Waxa uu sidoo kale ugu yeerayaa argagaxo, balse Jubba wuu qoslayaa isagoo leh Mareykanku waa kuwa dalalka shisheeye hubka ku soo galay iyagoo doonaya inay laayaan dadka. Intii uu Jubba hadlayo, Isaaq waxa uu sii wataa xisaabtiisa. Ugu dambeyntiina waxa uu ogaanayaa in Jubba isku qarinayo qashinka, waxa uuna ku jira xaalad adag muddo dheer, waliba iyadoo heerkulku xad dhaaf yahay, taasoo ka dhigan in ninkaanu yahay xirfadle dhab ah. Jubba waa diidayaa in uu yahay sniper-kii caanka ah, wuxuuna mar kale sheegtaa inuu yahay nin caadi ah oo Ciraaqi ah. Markii uu dhageystay lahjadiisa, Isaaq waxa uu maleynayaa inuu yahay askari hore oo Mareykan ah oo qiyaamay ciidamada, balse Jubba waa iska fogeynayaa arrintaas. Waxa uuna sheegayaa kaliya inuu dilo dadka asiga soo weerara. Markaas Isaaq waxa uu la wadaagayaa sheekada saaxiibkiisii ugu fiicnaa yaraanta, waxayna markii dambe si wadajir ah ugu biireen ciidanka. Ugu dambeyntii Isaaq haraadka iyo daalka ayaa si saa'id u saameynaya. Waxa uu ku dhacayaa dhulka isagoo maqlaya Jubba oo leh afkaada uu qalali doonaa. Kadib Isaaq waxa uu isku dayi doonaa inuu khiyaano Jubba, isagoo jaakada iyo koofiyadda iyo qoray si uu derbiga u kor muujiyo, balse Jubba ma aaminayo. Koofiyadii ayaana dhinaca kale derbiga uga dhacday, taasoo hadda ka dhigan inuusan madaxa difaaca karin. Dadkaas oo gala waxa uu sababaa inuu ooyo. Waqti dheer kadib Isaaq waxa uu go'aansaday inuu gaaro derbiga kale si uu meydkaas u baarto. Waxa uuna ordayaa dhanka mid ka mid ah meydadka, waxa uuna qaataa bacdiisa iyo raadihiisa, kadibna dib ayuu ugu cararayaa derbiga isagoo ka dhuumanaya rasaasta Jubba. Bacdaas waxa uu ka helayaa biyo iyo naanac oo si degdeg ah u cuno, balse nasiib darro raadiyo ma shaqaynayo. Jubba waxa uu rasaasta ku furayaa derbiga isagoo dhaawac culus u geysta muraayadda Isaaq. Si lama filaan ah, Isaaq waxa uu maqlayaa dhawaaq, waxa uuna ogaanayaa in Maasis weli nool yahay. Isaaqna waxa uu sheegayaa goobta uu joogo sniper-ku. Maasis waxa uu isla markii soo qaataa bir si uu u ogaado qashinka. Inta Maasis si tartiib ah u dhaqaaqayo si uu u gaaro qorigiisa, Isaaq waxa uu mashquulinayaa Jubba isagoo sheeko yar la galaya. Isaaq waxa uu ogaanayaa in Jubba hore macallin u ahaa Baghdad, ardaydiisii ayaa la dilay markii ay Mareykanku duqeeyeen. Markaas ayuu go'aansaday inuu ka argoosto. Kadib Jubba waxa uu weydiinayaa Isaaq sababta uu ahayo muraayadda jaban, laakiin Isaaq uu diidayaa inuu ka jawaabo. Markaas Jubba uu hanjabayaa inuu mar kale tooga doono Maasis si uu u badbaadiyo Maasis. Isaaq waxa uu qartaa inuu hayo muraayad jaban, waxa uuna u sheegayaa sababta uu haysto inay tahay xasuus hore oo saaxiibkii oo u dhintay qalad asagoo u galay, walina uu ka xun yahay. Dhanka kale Maasis waxa uu toosinayaa qorigiisa isagoo indha ka cabir u tooganaya dhanka qashinka, waxa uuna ridayaa dhammaan xabadihiisa uu hayay. Isaaqna waxa uu ridayaa xabadihiisa si uu uga dhigo in xabadaha uu soo riday isaga. Maasis waxa uu isku dayayaa inuu mar kale xabad rido. Jubba si lama filaan ayuu u toogtay, waxa uuna kaga dhuftay garabka. Isaaq waxa uu weydiinayaa Maasis inuu soo gaaro derbiga. Nasiib darro, markii Isaaq uu isku dayay inuu caawiyo saaxiibkii, Jubba waxa uu si toos ah uga toogtaa madaxa. Isaaqna waxa uu arkayaa saaxiibkii oo dhimanaya, waxaana ku dhacaya niyad-jab xanuun badan isagoo leh waxaan rabaa inaan aado gurigayga. Jubba waxa uu sheegayaa Isaaq haddii uu rabo inuu baxo inuusan tooga doonin, laakiin Isaaq wuu ka shakisan yahay. Markii dambe Jubba waxa uu Isaaq weydiinayaa sababta uu u joogo halkan iyadoo dagaalkii dhamaaday. Isaaqna waa yara aamusa, kadib waxa uu qartaa inuu asugu dilay saaxiibkiisii hore. Waxa uuna toogtay sniper-kii uu la shaqaynayay isagoo raba inuu toogto cadowga. Waxa uuna dadkoo dhan u sheegay inuu dilay saaxiibkii cadowga. Si lama filaan ah, Isaaq waxa uu maqlayaa cod ka imaanaya raadiyaha, waxa uuna u cararayaa si uu u hubiyo, isagoo ku faraxsan inuu maqlo dad hadlayo, laakiin farxadiisa ma sii socon sababtoo ah codadkan wuu maqli karaa laakiin fariin uma diri karo. Si lama filaan ah, Jubba ayaa la hadlaya dadkii uu Isaaq maqlayay, waxa uuna isticmaalayaa magaca Isaaq si uu gargaar u weydiisto. Isaaq markii dambe waxa uu ogaanayaa in Jubba muddo dheer uu jabsaday isgaarsiinta ciidanka, isagoo iska dhigaya askar caawin u baahan si uu u soo jiito gargaarka, una dilo si fudud isagoo ka faa'iideysanayo isgaarsiinta uu jabsaday. Isaaqna waxa uu isku dayayaa inuu joojiyo wada hadalka, balse wuu ku guuleystaa waqti kadib. Isaaqna waxa uu toosayaa isagoo dareemaya xanuun saa'id ah, balse shimbir ayaa cunaysay jilibkiisa. Markii uu arkay xitaa inay shimbiru u maleynaya inuu dhintay, Isaaq waxa uu go'aansaday inuu halis qaato. Waxa uuna isticmaalayaa ul iyo xarig si uu u soo jiito qoriga Maasis. Kadibna waxa uu u jeestay qashinka oo u maleynayo inuu ku dhuumanayo. Isla waqtigaas diyaaradda qumaatiga u kacday helicopter-ta ayaa imaanaysa. Si lama filaan ah, waxayna shaacisaa halka uu Isaaq ku sugan yahay, iyadoo aan ogeyn inay tahay damin. Si uu u badbaadiyo ciidamada imaanaya, Isaaq waxa uu riixayaa derbiga ilaa uu ka dumay, taasoo sababta boor fara badan oo soo ogaanay Jubba halka uu ku sugan yahay Isaaq. Isaaqna waxa uu bilaabayaa inuu rasaas ku rido qashin kasta si uu u ogaado in Jubba dhintay. Ugu dambeyntii Isaaq uu istaagayaa, waxaana yaab ku noqotay in Jubba uusan soo ridin xabad.
xabad uusan ka faa'iideysan fursadan. tanina waxay Isaaq u muujisay inuu Jubba dilay. wax yar kadib diyaaradda ayaa qaadaysa Isaaq iyadoo sariirta loogu talagalay dhaawaca. Isaaqna waxa uu isku dayayaa inuu uga digo ciidanka Jubba balse lama maqlayo sababtoo ah dhawaaqa diyaaradda ayaa saad u sareeyay. si lama filaana Jubba waxa uu bilaabayaa inuu rasaasta ku rido diyaaradda isagoo dilaya mid kamid ah askarta caafimaadka ka hor inta uusan toogan duuliyaha diyaaradda. diyaaradii si degdeg ah ayay dhulka ugu dhacday iyadoo si toos ah u dishay Isaaq. Jubbana waxa uu soo gashay dhammaan inuu dilay ciidankii meesha imaaday. Jubba waxa uu oofiyay ballantii uu hore uga qaaday Isaaq oo ahayd inuu dili doono. Jubba waxa uu mar kale jabsaday isgaarsiinta Mareykanka isagoo iska dhigaya askar caawimaad u baahan. filimkeena intaas ayuu ku dhamaaday. inta aana filimka bilaabin waxaan xasuusinayaa inay YouTube-ka subscribe dhaadin muuqaalkan aad like saarto. waa ku mahadsantahay daawashadaada. filimkeena waxa uu ku bilaabanayaa wiil lagu magacaabo Kitty. maalin ayuu aabihii Tom iyo dad kale ayuu ugaarsi u raacay. bartilmaameedkooduna waxa uu ahaa dibi duurjoog ah oo daaqaya meel aan ka fogeyn. markii si taxadar loo qorsheeyay ugaarsiga, Tom ayaa calaamad bixinaya. ugaarsadayaashiina waxa ay si tartiib ah ugu dhaqaaqeen waxayna bilaabeen inay warmahooda tuuraan si ay dibidu ugu cararto dhanka godka. markii ay ka dhacaan si ay ugu guuleystaan ugaarsigooda, wax walba si fiican ayay u socdeen ilaa uu hal neef si lama filaan usoo jeestay dhanka ugaarsadayaashii. toos ayuuna ugu soo booday Kitty maadaama ay ahayd markii ugu horeysay oo Kitty ugaarsi ka qayb qaato. cabsi ayaa qabatay wuuna istaagay isagoo aan dhaqaaqi karin. dibigii waxa uu Kitty ku dhuftay dhulka balse ma uusan joogsan. waxa uuna mar kale usoo laabtay Kitty. geesihiisa ayuuna Kitty ku qaaday isagoo u jiiday dhanka godka. aabihii Tom waxa uu isku dayayaa inuu badbaadiyo wiilkiisa. waxa uuna waran ku dhuftay caloosha dibiga. inkastoo uu dhaawacmay haddana waxa uu godka ku tuuray Kitty. Tom iyo ugaarsadayaashii kale waxa ay u carareen dhanka godka. waxa ayna arkeen Kitty oo ku dhagan dhagax inta aan weli wax laga qaban. Kitty ayaa gacmihii usii baxsadeen wuuna dhacay. nasiib wanaag Kitty si toos ah uguma dhicin dhulka. wuxuu ku dhacay dhagax weyn oo dhexda ku yaala wuuna miir beelay. Tom waxa uu rabay inuu godka hoos ugu soo dago si uu u badbaadiyo wiilkiisa, laakiin ugaarsadayaashii kale ayaa ka joojiyay. waxa ayna u sheegeen in uusan badbaadin karin. waxa kale ay xasuusiyeen in cunto ay tahay in ay geeyaan tuulada ka hor inta uusan imaan barafka. Tom habeenkii oo dhan waxa uu dul fadhiyay godka isagoo ku qaylinaya magaca wiilkiisa, rajaynaya inuu nool yahay. subaxii isaga oo murugaysan ayuu waxa uu sameeyay duco sagootin ah wuxuuna raacay kooxda. laakiin Kitty weli ma uusan dhiman. daqiiqada kadib Gorgor ayaa ku dul yimid. Gorgorku waxa uu maleynayay Kitty inuu dhintay uuna yahay ugaarsi sahlan, balse Kitty ayaa si dhaqso ah isaga eriyay. wuxuuna arkayaa in uu keligii ku xayiran yahay dhagaxa cidna uusan haysan. inkastoo uu cabsanayo haddana go'aan ayuu qaatay. wuxuu bilaabay inuu hoos u dego. cagtiisa way siibatay balse si dirqi ah ayuu ku qabsaday. hoostiisana roobkii ayaa u bedelay webi. markii uu ogaaday tan inay tahay fursaddii uu ku badbaadi lahaa, Kitty wuu isdhiiriyay waxa uuna ku booday biyaha. subaxii waxa uu ka soo toosay geeska biyaha. markii uu istaagay xanuun daran ayuu ka dareemayaa lugtiisa. markii uu kabaha furo waxa uu arkayaa lugtiisa oo dhaawac xun soo gaaray. waxa uu ogaaday inuu cidna haysan, dhulkuna yahay duur aan la deganayn. waxa uuna is yiri waa inaad adkaysaa si aad u noolaato. waxa uuna laba dhagax dhex geliyay lugtiisa si uu isugu aadiyo lafaha. kadibna si uu lugtiisa u adkeeyo, ul ayuu ku xirayaa isagoo weli dhaawac ah. wuxuuna u dhaqaaqay dhinaca buurta. halkaas ayuu ka helay dhagxantii aabihii Tom oo u isticmaali jiray caadooyinka markii qof ay ka dhimato. markii uu arkay aad ayuu u murugooday. markaas ayuu maqlayaa ciida yeyda. markii uu wareegay waxa uu arkayaa yey badan oo kusoo ordaysa. waxa uu ordayaa si xawaare leh. markii uu arkay in uusan ka baxsan karin, wuxuu fuulay geed qalalan. hal yey ayaana lugta ka qabsatay. Kitty waxa uu soo bixinayaa mididiisa wuxuuna ku dhuftay yeydii. dhulka ayayna ku dhacday inkastoo ay dhaawacantay yeydii. habeenkii oo dhan geedka hoostiisa ayay joogeen. subaxii yeydii kale way tageen waxayna ka tageen midkii dhaawaca ahaa. inkastoo uu cabsi ka qabay Kitty waxa uu soo dhawaanayaa yeydii dhaawaca ahayd. wuxuu rabay in uu dilo, laakiin markuu arkay xaaladeeda liidata, naxariis ayaa ku dhalatay. waxa uuna afka kaga xiray xarig. waxa uuna ku qaaday garbihiisa. waxa ayna galeen god u dhow. habeenkii way wada seexdeen. subaxii asiga oo dhir daawo ah isku daweynayo ayuu ogaaday in yeydii xarigga iska furtay. ilkaheedana way soo bixisay balse Kitty wuu deganaa. si tartiib ayuuna biyo ugu shubay. markii hore way iska diiday balse dabeecadda degan ee Kitty ayay ku qanacday. kadibna way cabtay. Kitty waxa uu bilaabayaa in uu daryeelo. waxa uuna ka saarayaa cayayaanka ku jira dhaawaceeda maadaama ay cunto la'aan jirtay. Kitty waxa uu ugaarsaday bakayle maalintii xigtay. markii uu keenay oo karinta bilaabay, yeydii ayaa isku dayday in ay la baxdo, laakiin Kitty ayaa u diiday. waxa uuna iska dhigay inuu cunayo hilibka cirinka. yeydiina way cabsatay wayna fadhiisatay. markii uu kariyay hilibka ayuu la wadaagay isagoo u cadeeyay in sharcigaas loo baahan yahay. maalmo kadib Kitty waxa uu fiicnaatay lugtiisa. waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabto gurigiisa ka hor inta aana barafku xoogaysan. waxa uuna u sheegayaa yeydii inay dib ugu laabato duurka, laakiin markii uu dhaqaaqay yeydii ayaa ka daba socotay. Kitty wuu xanaaqay ul ayuuna ku tuuray si uu isaga reebo, laakiin yeydii halkii ay ka carari lahayd ushii ayay soo qabatay wayna u keentay. waxa uu arkayaa yeydii oo gees fiirinaysa ka hor inta uusan fahmin waxa dhacay. waxa uu arkayaa koox doofaar ah oo meel fog jooga.
yaydii si dhaqso ah ayay uga ordaysaa si ay dhinaca Kiita ugu soo raacdayso. Kiitana wuu istaagayaa isagoo warankiisa gacanta ku hayo. Doofaarkii markii uu soo orday Kiita si fiican uguma dhufan. Doofaarkiina waa baxsaday. Yaydii way niyad jabtay. Waxa ayna fahantay in fursadoodii ay lumiyeen, laakiin waqti kadib waxa ay bilaabeen inay isla shaqeeyaan. Kiita waxa uu bixiyay magaca Alpha, waana halka uu ka bilowday xiriirkooda rasmiga ah ee saaxiibtinimada. Alpha waxay bartay Kiita sida loo ugaarsado, loogu noolaado si wacan. Habeenkii Alpha waxay la seexan jirtay Kiita si ay dhaxanta uga celiso. Kiita waxa uu bilaabayaa inuu ku raaxaysto safarka iyo saaxiibtinimadeeda, laakiin jiilaalkii markii uu xoogaystay baraf ayaa dhulka dhan daboolaya. Iyagoo duruuf adag ay hayso haddana waxa ay sii wataan safarkoodii. Maalin ayaga oo dul maraya webi baraf noqday. Barafkii ayaa dilaacaya. Kiita waxa uu ku dhacayaa biyaha qabow, waxa uuna ku xayirmay barafka hoostiisa. Alpha waxa uu isku dayayaa inuu jabiyo barafka si uu Kiita uga soo saaro, balse waa ku guuldareystay. Kiita ayaana ugu dambeyntii mididiisa ku jabiyay barafka. Alphana waxa uu ka caawinayaa inuu ka soo baxo. Maalintii dambe Kiita waxa uu arkayaa nin fadhiya teendho horteeda. Wuxuu dareemayaa rajo. Markii uu soo dhawaaday waxa uu ogaanayaa in ninku uu meed yahay. Teendhadina waxa uu ka raadinayaa cunto. Wax faa'iido lehna ma uusan helin. Inkastoo uu niyad jab ku dhacay, haddana waxa uu sii wataa safarkiisa, balse khatar cusub ayaa soo korortay. Dhinac waxaa ka soo socdo duufaan baraf ah, dhinaca kalena waxaa ka soo socda yey. Kiita si dhaqso ah ayuu u ordayaa isaga iyo Alpha. Markii ay galeen god, duufaantiina waxa ay ku dhufatay banaanka. Yeydu ma soo geli karto godka. Gudaha godka Kiita waxa uu boodayaa badbaado, laakiin Alpha waxa ay muujinaysaa feejignaan. Si lama filaan ah, shabeel madow ayaa ka soo boodayay gidaarka. Weerar lama filaan ah ayuuna ku qaaday Kiita inta uusan gaarin. Alpha si geesinimo leh ayuu ugu booday si uu u badbaadiyo Kiita. Kiita wuu baqay, balse waxa uu ogaaday haddii uusan badbaadin Alpha inuu dhimo doono. Wuxuuna muujinayaa geesinimadiisa. Fallaarta ayuuna ku dhuftay shabeelkiina wuu dhacay. Alphana waa dhaawac. Isagoo dhaawaca ayuu ku soo ag dhacay Kiita. Markii uu arkay xaaladiisa, Kiita waxa uu go'aansaday inuu badbaadiyo saaxiibkii, kaasoo marar badan badbaadiyay. Wuuna daaweynayaa. Subaxii waxa ay sii wataan safarkooda. Kiita ayaana ku qaadaya garbihiisa Alpha. Inkastoo xaaladdu xumaanaysay, Kiita marnaba isma dhiibin. Wuxuuna Alpha la maray buuro iyo dhul adag, habeen iyo maalin. Ugu dambeyntii waxa uu arkayaa tuuladii. Markii uu gaaray, Kiita wuu dhacayaa isagoo Alpha gacanta ku haya. Aabihii Tom wuu naxayaa markii uu arkay Kiita oo weli nool. Wuu u orday. Hooyadii oo rajada ka quusatay ayaana faraxday. Way timid iyadoo ilmeynaysa. Inkastoo Kiita daciif ahaa, haddana waxa uu dareemayaa farxad. Markuu la kulmay waalidkii, codsiga ugu horreeya uu sameeyana waxa uu ahaa badbaadiye Alpha. Daqiiqado kadibna Kiita wuu miir beelay. Markii uu soo miirsaday, waxa uu helayaa war la yaab leh. Alpha ayaa dhashay ilmo yar. Aad ayuu ugu farxayaa. Saaxiibtii ay safar dheer soo galeen. Ixtiraamka uu hayana wuu sii siyaadayaa maadaama ay marar badan badbaadisay. Aad ayaa u mahadsantahay haddii aad nala soo gaartay halkan. Haddii aad ka heshay filimkan, fadlan muuqaalka like saar, YouTube-kana subscribe dheh. Aad ayaan u mahadsantahay. Inta ana bilaabay muuqaalka YouTube-ka subscribe dheh, muuqaalkana like saar. Waa ku mahadsantahay. Filimku wuxuu ku bilaabanayaa haweeney ayaa waxay ka soo baxaysaa shaawarka. Kadib waxay soo taagaya nin burcad ah oo lagu magacaabo Victor. Ninkii burcad ahaa waxa uu gacantiisa ku qabanayaa haweeneyda ilaa ay ka suuxdo. Kadibna dhala ayuu wajiga u garaacayaa ilaa ay ka dhimatay. Waxaan ogaanaynaa 3 sano ka hor in burcad oo lagu magacaabo Victor waxaa xabsiga dhigay Baron Mason, laakiin qofna ma filayn in markii Victor xabsiga uu ka soo baxo uu dili doono xaaska Baron Mason si argoosi ah. geerida xaaskiisa kadib riyadii ahayd inuu burcada magaalada ka nadiifiyo Mason way sii xoogaysatay. Hadda waxa kaliya uu doonayaa argoosi. habeenada kamid ah Baron Mason waxa uu qaatay hubkiisa asiga oo hore u kaxeeyay mid burcadi kamid ah. waxa uuna wacay saaxiibadiisii booliska. waxa uuna u sheegay in uu joogo goobtaas. waxa uuna u sheegay sababta uu joogo goobtaas in uu dilgeysa rabo. markii saaxiibadiisii booliska ay imaadeen, waxa uu toogtay ninkii. saaxiibadiisii booliska ayaa weydiiyay sababta uu sidan u yeelay. Mason wax jawaab ah ma bixin. waxa uuna si fudud ugu tuuray hubkiisii jilbaha ayuuna dhulka dhigtay. Mason xabsi ayaa lagu xukumay iyadoo lagu helay dil ula kac ah, waana wixii uu doonayay Mason, sababtoo ah ninkii xaaskiisii dilay ee Victor hadda wuxuu ku jiraa isla xabsiga. markii uu Mason yimid xabsiga, waxaa la geeyay xafiiska taliyaha xabsiga. taliyaha ayaana uga digay inuu wax rabshado ah ka sameeyo xabsiga, isagoona u sheegay dhammaan in wax xabsiga ku jira ay dilayaal yihiin. maadaama Mason uu ahaa jiray boolis, waxa uu cadowgooda noqday dhammaan maxaabiista. sidaa darteed taliyuhu wuxuu weydiistay Mason haddii uu la shaqay karo si loo ilaaliyo nidaamka xabsiga. taliyuhu wuxuu shaqo fudud u diray Mason oo ah dhaqdhaqista, laakiin Mason ma danaynin shaqadaas. dhanka kale, Victor waxa uu ogaaday in Mason xabsiga la keenay. inkastoo uu hore u soo dilay saaxiibkii, haddana Victor kama walwalsanayn waxaas. maalintii xigtay, Mason asiga oo shaqaynaya waxaa soo weeraray qayb ka mid ah maxaabiista. halkaas dagaal ayaana ka dhacay.
inkastoo Mason uu ahaa qof xirfad dagaal leh haddana waa la garaacay waxaana soo kala orday askar ayagoo halkaas ka badbaadiyay Mason in la dilo maalmo kadib Mason waxa uu la sheekaystay askari kamid ah askarta waardiyeysa maxaabiista waxa uu ogaaday in Victor uu xabsiga ku jiro muddo sanad ah haddana uu xiriir la leeyahay tuugada banaanka iyo mid gudaha balse Mason waxa soo dhan uma jixin inkastoo naftiisa wali ay qatar ku jirto haddana wuxuu u taagnaa in uu argoosto habeen wuxuu sariirtiisa hoostiisa ka bixiyay qalin asigoo ka dhigay afkiisa mudac markaas wuxuu aaday musqusha asigoo raba inuu ku weeraro mid kamid ah maxaabiista oo horey u soo weeraray inkastoo maxbuuska uu dhaawac culus gaaray haddana wuu dagaalamay maxbuuskii dhiigbax awgeed ayuu daciif la noqday waxa uuna ku dhacay dhulka Mason ma joojin argoosiga waxa uuna bartilmaameedsaday maxbuus kale uu ninkaas ku mashquulsanaa nadiifinta waxa si qarsoodi ah u weeraray Mason sidaas ayuuna u garaacay ninkii uu dhintay ugu dambeyn Victor waxa uu ogaaday in raggiisii mid loo leynayo waxa uuna dagaalka u soo diray saaxiibadiisii ugu dagaalka badnaa si ay Mason u weeraraan laakiin Mason dagaal ayuuna kala hortagay uuna garaacay Mason waxa si lama filaan ah u garaacay askari waxaana lagu xukumay ciqaab gooni ah waxaana mar kale loo yeeray taliyihii xabsiga isagoo kalkan Mason u soo bandhigay markaas ayuu Mason ogaaday awoodda uu leeyahay Victor in ay ka timid taliyaha xabsiga iyo heshiis ay galeen ama Mason oo hore boolis u ahaa jiray uu diiday heshiiska uuna ka dhaqaaqay taliyaha ayaana ka xanaaqay waxaana ku xukumay ciqaab xabsi markii uu Mason ka soo baxay xabsiga waxa uu aaday qolka dhaqista asigoo aan qofna la hadlin waxa uuna helay bir yar oo ka go'day dhoomaha wuu qarsaday isagoo ka dhigay birtaas mid gacanta la gashan karo Mason waxa uu sii waday xasuuqii saaxiibadii Victor markii uu Victor ogaaday in wali saaxiibadii la ugaarsanayo ma sii adkaysan karin waxa uuna si toos ah u soo aaday Mason isagoo wato midi Mason waxa uu dareemay halista waxa uuna feer ku dhuftay askari u dhawaa sidaasna ayaana xabsiga lagu dhigay waxa uuna ka badbaaday weerarkii Victor Mason waxa uu go'aansaday in uu laayo dhammaan saaxiibada Victor kadibna asiga uu raaciyo dagaal ayaana mar kale bilowday iyadoo saaxiibada Victor ay weerar ku qaadeen Mason saaxiibada Victor waxa ay adeegsanayeen midi Mason waxa uu adeegsaday xarig isagoo ku xiray mid kamid ah waxa uuna ka tuuray saqafka sare isagoo ku kor dhacay askari markii askarigii ay nafta ka dhacday waxa ay qaateen qorigiisii maxaabiistii ayagoo bilaabay in ay ku dagaalamaan maxaabiistu waxa ay dagaal la galeen askarta waxa aana buuq ka bilowday xabsiga dhan Victor waxa uu qori ka qaatay mid kamid ah saaxiibadii isagoo rasaasta ku furay Mason laakiin waxay ku dhacaysay saaxiibadii oo kale orday markii uu Mason u soo dhawaaday waxa bilowday dagaal gacan ka hadal ah Mason waxa lagu dhuftay teesto aad u xoog badan waxa uuna ku dhacay dhulka Victor waa mid aad u xoog badan Mason inkastoo uu ahaa nin boolis ah laakiin halka feero Victor ayaa ah mid aan la xakameyn karin ilaa markii dambe Mason uu helay fursad waxa uuna ku dhuftay dhuunta Victor ayaana dhulka ku dhacay markii uu Mason isku dayay in uu argoosto taliyaha xabsiga ayaa garabka xabad uga dhuftay waxa uuna baskooladii u dhiibay Victor si uu u dhameystiro Mason waxa uu sheegay Victor in taliyuhu uu xabsiga uu sheegay xogtiisa Victor asigoo xanaaqsanayo wuxuu laad ku dhuftay taliyihii sidaas ayaana taliyaha lugta uga jabiyay mar kale dagaalka ayaana sii socday Mason waa laga awood badan yahay oo waxa lagu dhuftay dhulka laakiin Victor inta soo kor istaagay ayuu ku jeestay halkii uu ka dili lahaa Mason waxa uu ka faa'iideystay fursadaas waxa uu la soo baxay midi u qarsaneed isaga oo ku dhuftay dhuunta sidaas waxa uu ku xaqiijiyay argoosigiisa fadlan nagu soo biir YouTube-keena oo subscribe leh muuqaalkana like saar waa ku maasantaa inta aana filimka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaan muuqaalka like saartid subscribe dhahid waa ku maasan tahay filimka wuxuu ku bilaabanayaa nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Jane wuxuu leeyahay dukaan lagu dayactiro mobilada balse lacagta uu ka helo kuma filna qoyskiisa walaashii ka yar oo lagu magacaabo Ton ayaa u baahan qaliil sababtoo ah waxay leedahay dalalka wadnaha dhammaan mas'uuliyadda walaashii asiga ayay saaran tahay sababtoo ah hooyadii iyo aabihii way dhinteen Jane wuxuu booqday isbitaalka dhakhtarku waxa uu sheegay in walaashii ugu badnaan ay 2 sano qaliin la'aan joogi karto lacagta qaliinka ee ku filan walaashiina inay dhantay $700,000 Jane ma awoodo lacagtaas isla habeenkaas Jane asigoo la joogo walaashii waxa soo wacay saaxiibkii waxa uu ugu yeerayaa warshad ku taal xaafadiisa sababtoo ah wuxuu rabaa inuu wax ka tusiyo Jane saaxiibkii wuxuu marada ka qaaday kayd aad u weyn oo gaaray 100,000 oo mobil Jane saaxiibkii ayaa u sharaxay waxa uu u sheegay in taleefanadan ay ka gudbi waayeen qaybta baaritaanada tayada ninkii lahaana oo ku jira xabsiga muddo 2 sano ah oo san bixin wax kira ah oo ku saabsan baqaarka ay ku jiraan mobilada Jane saaxiibkii wuxuu soo bandhigay inuu taleefanadan iibsado kadibna uu soo inta hagaajiyo oo qiimo sare ku iibiyo Jane wuxuu tixgelinayaa hadalka saaxiibkii balse ma haysto lacag ku filan oo ku iibsado mobiladan waxa uu soo iibsanayaa hal taleefan ka hor inta uusan guriga ku soo laaban habeenkii oo dhan wuxuu si taxaddar leh u baarayaa taleefanka waxa uu ku guuleysanayaa ugu dambeyn inuu shido wuxuu go'aansanayaa inuu aado bangiga waxa uu ka helayaa deyn kadib wuxuu tagayaa shirkadda iibisa taleefanada waxa uu la saxiixanayaa heshiis markii uu Jane xisaabiyo faa'iidada uu ka helay heshiiska waxa uu la yaabayaa inay ku dhowdahay $1 milyan taas oo ka badan qarashka ku baxaya qaliinka walaashii Jane oo aad u faraxsan ayaa walaashii ka soo wadaya iskuulka
waxa uuna dareemayaa inuu dhammaan dhibaatooyinkiisii uu xalliyo. Laakiin maxaa dhacay isbuuc kadib? Dowladda Shiinaha ayaa mamnuucday iibsiga taleefannada la dayactiray sababtoo ah qashinka elektarooniga oo magaalada kusii kordhaya. Jane iyo ganacsadihii ayaa isku dhacay. Jane wuxuu xasuusinayaa ganacsadaha inay heshiis kala saxiixdeen, balse ganacsadaha ayaa ku wargelinaya in aysan jirin wax qandaraas ah oo ka sareeya sharciga. Jane aad ayuu uga xumaaday in uusan awoodin qarashka ku baxaya qalinka walaashii iyo deyntii uu ka soo qaato bangiga inuu dib u celiyo. Aad ayuuna u murugaysan yahay. Si lama filaana Jane waxaa ku soo dhacaya fikrad. Waxa uuna aadayaa shirkadda iibisa taleefannada. Waxa uuna u soo bandhigayaa heshiis maamulaha. Jane wuxuu rabaa inuu qiimo jaban u iibiyo qaybaha muhiimka ah ee taleefannadan si ay ugu isticmaalaan qaybahaas taleefannada cusub ay soo saarayaan. Maamuluhu wuxuu u sheegayaa in aysan suurtagal ahayn sababtoo ah in ay lumayso tayada marka laga soo saarayo taleefannada, kadibna keeni karta inay ku fashilmaan tayadhowrka guud ee dalka. Jane wuxuu u sheegayaa inuu dhammaan qaybaha muhiimka ah si taxaddar leh uga soo saari karo, isagoo hubinaya tayada qaybahaas. Waxa uuna u sheegayaa in mid ka mid ah taleefannadii uu farsameeyay uu ka gudbo tayada. Waxa uuna ka codsanayaa inuu heshiis la saxiixdo. Maamuluhu waxa uu sheegayaa in uusan weligii ku fikirin in uu iibsado qaybaha laga soo saaro taleefannada oo celiska. Jane si cara leh ayuu uga xumaaday laakiin ma quusan. Jane waxa uu u tagay mulkiilaha shirkadda oo lagu magacaabo Saad. Waxa uuna ka codsanayaa 10 daqiiqo oo kaliya waqtigiisa. Mulkiilaha oo degdegsan ayaa aadaya tareenka sababtoo ah 30 daqiiqo kaliya ayuu haystaa. Sidaas darteed waa u diidayaa Jane inuu la hadlo. Jane wuxuu si degdeg ah u iibsaday tikidhka tareenka. Waqti ayuu soo qaatay wuxuuna soo aaday train station-ka. Nasiib darro asoo meel luuqa maraya wuxuu galay shil. Kadib mootadii ayaa u shaqay weysay. Waxa uuna go'aansaday inuu orod ku tago ilbiriqsiga ugu dambeysay ayuu ka gaaray tareenka. Waxa uuna si toos ah u aaday kursigii milkiilaha uu fadhiyay. Waxa uuna ku yiri mudane hadda 10 daqiiqo ma ii heli kartaa. Jane waxa uu sharaxay qorshihiisa mulkiilaha, laakiin mulkiilaha ayaa niyad jabiyay isagoo u sheegay in uusan awoodin dhammaan qaybaha muhiimka ah in uu ka saaro taleefannada, kadibna asigoo ilaalinaya tayada qaybahaas. Kadib markii wax badan uu ku celceliyay mulkiilaha ayaa ogolaaday inuu ka iibsado qaybahaas, laakiin waa haddii ay ka gudbaan tayada baaritaanada. Haddii ay ku guuldareystaan qaybaha baaritaanada, Jane ma heli doono wax qarash ah. Intaas waxa uu dheer, mulkiilaha wuxuu diiday inuu bixiyo lacag hormaris ah ama shaqaale la shaqeeya. Jane ma awoodo dhammaan taleefannada keligii inuu dayactiro. Jane waxa uuna la hadlayaa deriskiisa Saahu. Waxa uuna ugu warramayaa qorshihiisa ah in uu furo warshad lagu furfuro taleefannada. Waxa uuna ka codsanayaa inuu kala shaqeeyo Saahu, sidoo kalena uu noqdo kormeeraha warshadda. Saahu ayaa uga digay khatarta ka dhalan karta. Jane ayaana u sheegay waxa kaliya uu haysto inay tahay walaashii, wax kasta oo qalliinkeeda lagu fuli karana uu samaynayo. Saahu ugu dambeyntii wuu aqbalay dalabkiisa. Maalintii xigtay, Jane waxa uu iibinayaa dukaankiisii yaraa iyo mootada si uu u kiraysto baqaar uu ku furfuro taleefannadan. Jane iyo Saahu waxay bilaabeen in ay nadiifiyaan goobta ay ka dhigi rabaan warshadda. Waxa ayna keeneen qalab kasta oo lagama maarmaan ah. Magaca shirkadda ayaana laga dhigay Nice View. Hadda waxay u baahan yihiin shaqaale lacag yar ku shaqaynaya. Waxayna bilaabeen in ay raadiyaan. Jane waxa uu go'aansaday in uu shaqaaleysiiyo dadka danta yar si uusan u bixin mushaar badan. Shaqaalaha u horreeyay waxaa laga dhigay waana duq dhagool ah. Waxay ka shaqayn jirtay Cavalieri, waxaana shaqada laga fasaxay kadib markay amar qaldan qaadatay. Laakiin waxay leedahay aqoon farsamo. Shaqaalihii ku xigay waxaa laga dhigay nin ay eeyo badan u joogaan dadkan aan la hadlin. Jane wuxuu kaloo shaqaaleysay 2 wiil oo ciyaalka xaafadda ah. Jane dhammaan shaqaalihiisa wuxuu tababarayaa si fiican, isagoo hubinaya in aanay ku qaldamin ilaalinta tayada qalabka. Markii ay maqleen sheekada Jane, qaar ka mid ah dadka waayeelada ah ee howlgabka ah ee degan hareeraha warshadda waxa ay soo baxeen inay caawiyaan Jane maadaama ay ku caajiseen guryaha. Jane aad ayuu ugu farxay, laakiin Jane ma haysto lacag ku filan oo ku bixiyo mushaarka shaqaalaha. Sidaa darteed wuxuu bilaabay shaqada nadiifinta daaqadaha asigoo kaashanaya saaxiibkii. Jane maalintiina waa shaqeeyaa, habeenkiina taleefannada ayuu furfuraa. Waxa uu seexdaa 4 saacadood oo kaliya. Dhowr maalin kadib, mid ka mid ah shaqaalaha Jane ayaa guursaday, waxayna ka soo qayb galeen dhammaantood ayagoo farxadda la qaybsanaya. Jane ayaana mid lama filaan ah qabsatay xafladda kadib. Markii uu soo laabtay guriga, wuxuu albaabka ka helay waraaqad oo u qoray mulkiilaha guriga oo ay ku qoran tahay in uu bixiyo 4 bilood kiradood oo guriga ah si uu u furo albaabka. Jane wuxuu isku dayayaa inuu albaabka ku furo furihiisa, laakiin mulkiilaha ayaa bedelay qunfulka. Wuxuu isku dayayaa inuu mulkiilaha guriga waco, laakiin taleefanka ayuu ku damiyay. Hadda ma garanayo meel uu ku hoydo asiga iyo walaashii. Sidaa darteed waxa uu geeyay guriga Saahu si ay uga hoydaan caawa halka, isagoo dareemaya niyad-jab aad u weyn iyo quus. Maalintii xigta waxa uu go'aansaday in uu seexdo warshadda sababtoo ah ma rabi inuu culayska sii saaro saaxiibkii. Jane waa ka xun yahay xitaa in uusan awoodin inuu walaashii ku seexiyo sariir. Daqiiqad kasta Jane waxa uu shaqaynayaa si adag. Habeenada ka mid ah, Jane asigoo hurdo ku jiro waxaa ka kicinaya walaashii. Waxa ay dareentay shanqar ka yeeray bannaanka. Jane ayaana u soo baxay bannaanka si uu u fiiriyo waxa bannaanka ka jiro. Waxa uuna arkayaa 2 tuug oo xadaysa taleefannadiisa. Markii tuugadu ay ogaatay in la arkay, isla markii waxay bilaabeen inay cararaan.
laakiin isla markii Jane ayaa wuxuu ku booda gaarigooda waxa uuna qabsaday daaqada taasoo keentay darawalka inuu qalqalo. Jane iyo mid ka mid ah tuugadii ayaa waxay ka dhaceen gaariga taasoo keentay Jane in dhaawac culus uu ka soo gaaro faraha. darawalkii gaariga waa cararay laakiin Jane waxa uu hayaa mid ka mid ah tuugadii. maalintii xigtay Jane waxay booliisku ku wargeliyeen in ay soo qabteen tuugadii ayna hayaan alaabtiisii. Jane waxa uu aaday shaqadiisii nadiifinta waxaana si lama filaan ah uga soo fakaday baaldi biyo ah maadaama faraha dhaawac uu ka soo gaaray taasoo keentay ninka madaxda u ah Jane inuu waco. markii uu arkay faraha bararsan ee Jane waxa uu ku amray in uu iska bixiyo galoofiska. waxa uu sheegay nin jaban in uusan ka shaqeynin shaqada nadiifinta sidoo kalena uu ka eriyay shaqadiisii. inkastoo Jane uu baryayay haddana waa loo diiday in uu sii shaqeeyo balse wuxuu siiyay mushaarkiisa 3 maalmood ah maadaama uu farihiisa dhaawaca ku sii shaqeeyay. ma garanayo si uu u bixi doono mushaarka shaqaalaha iyo kirada. mulkiilaha xafiiska ayaa wuxuu ku wargeliyay Jane in uu 3 maalmood ku bixiyo kirada guriga haddii kale in xafiiska qof kale ka kiri doono. albaabadii ayaa iska soo xiray wax kale oo uu sameeyay ma yaqaano. Jane waxa uu laabtay maareeyaha shirkadii ay heshiiska wada galeen iyadoo roobab iyo duufaano ay dhacayaan. waxa uu weydiistay lacag hormaris ah. maareeyuhu uu aflagaadiyay Jane ka hor inta uusan ka saarin gaariga. dareen iyo jab ah ayaa soo wajahay. waxa uu u laabtay guriga saaxiibkii ay joogto walaashii iyadoo duufaan aad u kacsan ay jirto. maalintii xigtay Jane waxa kaliya uu sugayo waa in mulkiilaha uu imaado kadibna uu ka saaro xafiiska. mulkiilaha waxa uu banaanka u soo saaray dhammaan alaabtii Jane waxa uuna ka kirayay qof kale. Jane waxa uu dareemayaa niyad jab iyo rajo la'aan. waxa uuna is arkay isagoo fadhiya jidka dhinaciisa. waxaana uu imaaday dhammaan shaqaalihiisii ayagoo doonaya in ay shaqeeyaan laakiin Jane waa ka cudur daartay ka hor inta uusan u sheegin in xafiiskii la xiray oona hayn lacag oo ku bixiyo mushaarkooda. waxaana la yaab ku noqotay in shaqaalihii ay u sheegeen hadda in aysan wax mushaar ay rabin ayna yihiin saaxiibo ay doonayaan kaliya in ay isaga caawiyaan. waxa ayna u sheegeen Jane in ay alaabta u kala qaadan doonaan guryaha kadibna ay halkaas ku soo farsamay doonaan. tani waxay kor u qaaday rajada Jane. intaas kadib waxay bilaabeen taleefanada inay ku raraan gaariga kadibna ay u qaadaan guryahooda ayagoo halkaas ku furfurayo. kadib dadaal dheer oo bilo ah waxay dhameeyeen dhammaan shaqadii waxaana loo diray qaybta tijaabada. Jane iyo shaqaalihiisii waxay sugayaan natiijada ayagoo ka walwalsan. dhowr daqiiqo kadib waxaa looga yeeray xafiiska madaxa shirkadda ee SAT. waxa uuna ugu hambaliyay Jane in uu dhameystiro shaqada waqtigii loogu talagalay. waxa kale oo loo sheegay in 87% ay ka gudbeen tijaabada. Jane iyo shaqaalihiisii wajad farxadeed ayaa hareereysay maadaama dadaalkoodii uu miro dhalay. laakiin sheekadu intaas kuma eka. maareeyaha ayaa Jane wuxuu u soo bandhigay heshiiska ku kacaya $5 milyan si uu ugu shaqeeyo 2 sano. Jane si argagax leh ayuu wuxuu u weydiiyay maareeyaha haddii uu heli karo lacag hormaris ah. taasna maareeyuhu waa aqbalay. Jane iyo shaqaalihiisii markii ay wiishka koreen ayay farxad la qayliyeen. ugu dambeyn Jane wuu awooday in uu daaweeyo walaashii. muuqaalka ayaa u wareegaya 6 sano kadib. shirkadda Jane ee Nice View ayaa waxay samaysay sarowkac aad u weyn Jane taas oo ka dhigtay in uu noqdo bilyaneer. shaqaalihii oo ku bilaabay warshadda ayaa ayagana waxay noqdeen hantiilayaal. subscribe iyo like saar muuqaalkan. waad ku mahadsantahay daawashadaada. filimku wuxuu ku bilaabmayaa gabar lagu magacaabo Katie. Katie waxaa la socda kooxda dabagalka duufaanada oo ka caawinaya in ay gaarto himiladeeda ah deeq waxbarasho oo kulliyadda kiimikooyinka. ujeedada kooxda Katie ayaa ah inay xakameeyaan duufaanada iyagoo kaashanaya qaar ka mid ah dareerayaasha lagu kaydiyo fuustooyinka. wax yar kadib waxay aadeen dhanka ay ka muuqdaan duufaanada si ay u xakameeyaan iyagoo adeegsanaya kiimikooyinka. markii ay bilowdeen roobabka duufaanta watay waxa ay furka ka saareen dhammaan fuustooyinka si ay u raaciyaan duufaanada. isla markii ay duufaantu qabsato dhammaan kiimikooyinka waxay noqonaysaa mid aan la xakameyn karin. Jaffa oo looga tagay qaybta raadeerka wuxuu ogaanayaa duufaantu inay aad u kacsan tahay oo aan la xakameyn karin. wuxuuna ku amrayaa inay si degdeg ah u soo laabtaan. isla markiiba duufaantii ayaa aad u xoogaysatay waxayna qarisay baabuurka ay wateen. kadibna gaariga ayaa la gadoomay. afartoodii oo argagaxsan ayaa ka degtay gaariga waxayna bilaabeen inay la cararaan naftooda. 2 ka mid ah oo lagu magacaabay Adi iyo Bavan ayaa duufaantu qaaday halka Jeeb uu badbaadinaya Katie. laakiin nasiib darro isla markiiba waxay qaaday asiga. duufaantu way dhaaftay qof walbana waa fiican yahay. hadda dhacdadaas waxaa ka soo wareegtay 5 sano. Katie waxay joojisay riyadeedii hore. hadda waxay u nooshahay nolol caadi ah waxayna ka shaqaysaa xafiiska xog ururinta ee New York. si lama filaan ah 5 sano kadib waxay la kulantay saaxiibkeedii Jaffa oo doonaya inay caawiso ayada. Jaffa oo hadda ka shaqeynaya militariga qaybta raadeerka. Jaffa wuxuu u sheegay inuu raadeerka uu hadda ka shaqeeyo awood u leeyahay inuu ogaado duufaanta si horumarsan. wuxuuna u sheegay inay hadda wax kasta gacantooda ku hayaan oona doonaya inay caawiso Katie. wuxuu ku adkaysanayaa inay hadda wax kasta gacantooda ku hayaan oo doonayo Katie inay caawiso si ay u badbaadiyaan nolosha dadka ku nool deegaanada. Katie way diiday laakiin Jaffa wuxuu isku dayayaa inuu dib u soo nooleeyo xusuusiyeedii hore ee duufaanta oo aad ka xanuunka badnaa iyo inay caawiso dadka ku nool deegaanadaas. waxa uu si faahfaahsan u sheegay Katie inay aad u taqaano qaabka loo qiyaaso jihada duufaanada ay ka imaanayso. Katie kuma qancin hadalkiisa isla markiina way baxday.
Jaffa ma quusan oo maalintii xigtay wuxuu soo diray warbixino ka hadlaya duufaan ku soo wajahan magaalada Oklahoma oo ay tahay magaaladii ay ku dhalatay. Ugu dambeyntii Katie way ogolaatay inay raacdo Jaffa si ay u badbaadiso magaaladii ay ku dhalatay. Jaffa Katie wuxuu keenay meel ay joogaan kooxo badan oo dabagalka duufaanada ah. Kadib wuxuu baray Katie xubno kale oo kamid ah kooxaha uu hogaaminayo nin lagu magacaabo Scott iyo YouTuber lagu magacaabo Taylor. Jaffa ayaa weydiistay Katie inay saadaaliso jihada duufaanada. Katie waxay hubisay daruuraha si ay u qiyaaso jihada duufaanada ay ka imaanayaan. Taylor wuxuu la yaabay kartida gabadhan lagu magacaabo Katie. Jaffa iyo kooxdiisii waxay u kala qaybsameen 3 jiho si ay mid kamid ah sax u noqoto. Taylor wuxuu bilaabay inuu raaco Katie iyo Jaffa jihadooda kadib markuu ogaaday inay haystaan qalab horumarsan oo raadeerka ah. Jaffa iyo kooxdiisii waxay bilaabeen inay rakibaan qalabka si ay u ogaadaan xawaaraha duufaanta iyo jihada duufaanta iyo cabirka saxda ah ay ku imaan karto. Kooxda Jaffa iyo kooxda Taylor ayaa u kala tartamaya inay mid kasta ka hormaraan tijaabada kiimikooyinka kuwaas oo lagu hakinayo duufaanada. Hadda labada koox waxaa ka dhaxeeya tartan aad u adag. Jaffa iyo Katie gaariga ayaa la gariyay kadib markay soo dhawaato duufaanta. Katie waxay ku qaylisay Jaffa si uu si ugu dhaqsiyaha badan u joojiyo gaariga. Halka Taylor iyo kooxdiisii ay qabsato duufaan aad u xoog badan waxayna ku guuleysteen inay yareeyaan xoogga duufaanta. Kadibna waxay bilaabeen inay dabaaldegaan wayna soo laabteen. Jaffa iyo Katie waxay bilaabeen inay dib u celiyaan xasuusiga xanuunka badnaa ee soo mara. Jaffa wuxuu doonayaa inuu waqti la qaato Katie. Katie waxay la kulantay maalintii xigtay Jaffa iyo kooxdiis waxa ayna u sheegtay in duufaan aad u xoog badan ay ku soo wajahan tahay magaalada si degdeg ah ayna uga hortagaan. Dhanka kale Taylor wuxuu ku boorinayaa kooxdiisa inay ka hortagaan duufaanta soo socoto. Waxa uuna hawada ku tuurayaa diyaarad nooca daroonta aan duuliyaha lahayn iyadoo kooxdiisu ay diyaar garoobeen. Waxaa la arki karaa in laba duufaan oo aad u waaweyn ay ku soo socoto magaalada. Jaffa iyo Katie waxay ku sii jeedaan duufaanta ka soo socota qaybta bidix halka Taylor oo ku sii jeeda duufaanta ka soo horjeedo. Taylor ayaa u soo dhawaaday duufaanta wuxuu bilaabay inuu ku rakibo gaarigiisa dhulka si aysan duufaanta u qaadin. Xoogga duufaanta ayaa ka wareegtay isla markii ay u soo dhawaatay gaariga Taylor. Taylor wuxuu wajahayaa niyad-jab aad u weyn sababtoo ah ma xakamayn duufaanta mana joojin. Jaffa iyo Katie waxaa xayirtay dabaysha waxayna si dhib leh uga soo badbaadeen duufaanta iyadoo duufaantu si xawli ah uga socota magaalada. Katie oo murugaysan waxay ogaanaysaa in duufaantu ay ku dhufatay magaaladii ay ka soo tageen. Magaaladii oo dhan waxaa ku habsaday musiibadaas waxayna u soo jeediyeen Jaffa in ay tahay inay caawiyaan dadka ku waxyeeloobay magaaladaas. Jaffa markii hore wuu diiday kadib laakiin gadaal ayuu ka aqbalay. Jaffa iyo Katie waxay heleen xogta Taylor iyo kooxdiisii inay mar hore ka geysteen gacan daadgoreynta dadka ku waxyeeloobay magaaladaas. Jaffa wuxuu ka tagay Katie in muddo ah. Katie waxay la kulantay Taylor si lama filaan ah. Taylor wuxuu u sheegay Katie in Jaffa uu doonayo inuu guryaha burburay qiimo jaban ku iibsado kadibna uu sii iibiyo sidaasna uu ganacsi uga sameeyo. Katie way diiday hadalkii Taylor waxayna ku eedeysay inuu dadka dhibaataysan ka iibiyo cuntada. Isla markii uu tago Taylor Katie waxay ogaanaysaa in Taylor iyo kooxdiisu ay si lacag la'aan ah badarka u qaybinayaan iyo biyaha dadka magaalada ku nool. Qarashka oo dhanna uu bixiyo Taylor. Katie iyadoo aad u naxsan waxay ogaanaysaa Jaffa iyo kooxdiisii inay iibsanayaan guryaha burburay waliba qiimo jaban iyagoo doonaya inay ganacsi ka sameeyaan. Taylor ayaa u imaaday Katie si uu u raali geliyo kadibna wuxuu u keenay pizza asigoo ka codsaday inay soo daawadaan ciyaarta dibiga oo ka dhacaysa garoon u dhow xaafadooda si ay Katie murugadan isaga qaado ay u dareento farxad. Katie way aqbashay hadalka Taylor si lama filaan ah iyadoo bandhigu socdo waxaa la daarayaa digniinaha sheegaya in qatar soo socoto laakiin dadku badanaa ma walwalin sababtoo ah waxay u qaateen digniino been ah maadaama maalintii dhowr jeer la daaro wax duufaanana aysan imaan. Laakiin wax yar kadib qof kasta uu cararayaa si uu uga dhunto duufaanada isagoo doonaya in uu galo dhulka hoostiisa laakiin nasiib darro duufaantu aad ayay u xoogganeed. Katie waxay ogaatay Taylor inuu si dhab ah u doonayo inuu u caawiyo dadka magaalada. Sidoo kale waxay la kulantay Jaffa iyadoo ku eedeysa dhammaan waxyaabihii uu sameeyay waxayna ugu yeertay Daneste. Katie oo aad u niyad jabsan ayaa ku soo laabatay guriga hooyadeed. Hooyadeed ayaa aad ugu faraxday inay muddo dheer kadib ay aragto Katie. Laakiin markay aragtay qalbi jabka ka muuqda Katie hooyadeed waa u qalbi qaboojisay. Waxaana u yimid Taylor waxayna u sheegtay inay yaraanteedii danay jirtay inay wax ka ogaato duufaanada. Taylor wuu la yaabay waxayna tageen miiska qadada iyagoo cunteynaya. Katie hooyada Taylor waxay ka codsanaysaa inay caawa la joogo. Taylor iyo Katie waxay tagayaan qolka cilmi baarista ee Katie isagoo la yaabay qaabka ay u sharaxaysay adeegsiga bulumarka iyo inay mar hore ku guuldareysatay adeegsiga bulumarka. Waxayna u sheegtay ku guuldareysigaas in musiibadaas ay sababtay saaxiibadeed inay ku geeriyoodaan. Maalintii xigtay Taylor markuu baxay Katie waxay u sheegtay wax kasta oo u baahan yahay dhanka cilmi baarista inay ka caawin doonto ayna sii doonto xog kasta oo ay hayso. Waxayna wateen gaarigii ay saarneyd kiimikada. Jaffa ayaa Katie u soo laabtay isagoo ka cudur daaranaya waxyaabihii uu sameeyay. Sababta uu sameeyana wuxuu ugu sheegay inuusan haysan wax maalgelin oo ku saabsan cilmi baarista. Katie waxay ku wareejisay xog ku saabsan duufaanada
iyadoo rajaynaysa inay ka caawin doonto inuu wax ka ogaado duufaanada. Taylor iyo kooxdiisu waxay aadeen duufaanada soo socdo ayagoo dhammaan kooxda Taylor ay isu diyaarinaysa kalkaan inay xakamayso duufaanada. Wax yar kadib waxaa bilowday duufaan aad u xooggan iyo roob isla socdo, waxaana bilowday dab ka kacay warshad u dhoweed meesha ay joogeen, waxayna ku wargeliyeen dadka deegaanka inay si degdeg ah uga xaroodaan duufaanta. Taylor iyo Katie waxay dadka gala dhexeen dabaq weyn oo ku yaala goobta. Katie iyo Taylor iyo kooxdoodu waxay gaareen bartanka magaalada ayagoo bilaabay daadgureynta dadka. Katie waxay ogaatay duufaanta inay aad u sii xoogaysanayso. Go'aan kama dambaysa ayay Katie qaadatay, waxayna bilowday gaarigii kiimikada saareed inay u wado dhanka duufaanta, waxayna geysay bartamaha duufaanta. Gaariga ayaa la gadoomay kadibna kiimikadii ayaa dabaysha raacday. Waxay ku guuleysatay inay baabi'iso duufaanta oo dhan. Taylor iyo kooxdiisu waxay bilaabeen inay u cararaan dhanka Katie iyagoo doonaya inay soo arkaan inay nooshahay in kale, laakiin dhaawac yar ayaa soo gaaray oo xagtimo ah. Dhammaan dadkana waxay u mahadceliyeen Katie iyagoo u sheegay inay badbaadisay naftooda. Katie ugu dambeyntii waxay awoodday inay cilmi baaristeeda ka dhigto mid shaqaynaysa, waxayna heshay deeq waxbarasho oo waddanka dibaddiisa ah, waxayna macsalaamaysaa dhammaan qoysaskeeda iyo asxaabta. Filimku wuxuu ku dhammaanayaa Katie iyo Taylor oo jooga eelaboorka. Waad ku mahadsantahay daawashadaada, fadlan subscribe dheh.